maxay tahay sababta keentay sida u dhaqsiya badan magaalada inaan ka gurno maxaa haysa adiga yaa iga intus maxaa iga qarinaysaa iga daata waxa meenad adiga tartiib adiga intus horta marka hore maxaa waxaan ii sheeg waxaan waa dheemanka dunida yaal dheemanka ugu weynaa waa dheemanka dunida yaal dheemanka ugu weynaa magaciisana waxaa la yidhaahdaa the victory gown dad badan oo ka mid ah dadka dunida jooga ayaa waxa ay isku dayeen inay soo saaraan dheemannada dhulka hoostiisa iyo korkiisaba saaran si ay ugu soo bandhigaan dunida gobolka baarata waxa uu ka mid ahaa gobol caan ku ah dheemannada qaaliga dunida ka ah ha yeeshee qarnigii 17aad ayaa ciidamada Britishka waxa ay u soo hayaameen dalka Hindiya iyagoo raadinaya dheemannada dalkaasi ku jira ciidamadaasi ujeedkoodu wuxuu ahaa ama warbixin waxay heleen dheemanka ugu weyn ee dalka Hindiya inuu yahay dheemanka Kohinoor maraakiib ayay ciidamo ku soo gureen waxa ayna yimaadeen dalka Hindiya ha yeeshee ciidamadaasi waxa aysan ogeyn oo ka qarsanaa in dheemankaasi dheeman ka qaalisan 3 jeer inuu yaalay dalka Hindiya oo uu ku qarsanaa goob ka mid ah goobaha dalka Hindiya waxa uuna dheemankaasi ku qarsanaa magaalada la yiraahdo ama bandarka la yiraahdo Akilamba Devi waxaana loo yaqaanay dheemanka guusha magaca dheemanka guusha waxa loogu bixiyay marar badan ayaa la isku dayay in dheemankaasi la dhaco ama la boobo ha yeeshee waa lagu guuldareystay waxaana ilaalinayay boqortooyadii uu ka talinayay Jagravanta Avinash Maya iyo wiilashiisa waxayna shacabkooda ku dhiirigeliyeen in ciidamada Britishka laga hortago dheemankaasi markii ay xafideen iyaga ayaa lagu aaminay waa wiilashiisa iyo boqorka gacan ayay u dhiibtay jiilba jiil ayuu u dhiibay ugu dambeynna waxaa dhacday in dhaxaltooyadii wiilka ugu dambeeyay ee la yiraahdo magaciisa Jandira Maya ayaa weerar lagu soo qaaday isagoo dhaawaca ayaa waxa uu dheemankaasi ku wareejiyay taliyihii booliska ee waqtigaasi oo ahaa nin Hindiya waxa uuna kala dardaarmay in lagu wareejiyo ama la dhigo maxfalka qaranka Hindiya ee lagu kaydiyo waxyaabaha qaaliga ah xaashiga waxay la tahay waqtiga munaasibka ah iyo meesha munaasibkeeda oo aan mas'uuliyadda dheemankan ku wareejin lahaa ayaa la taagan sida ugu dhaqsaha badan carruurta waa inaad ku diyaarisaa adiga oroda soo carruurtana diyaari Biriya haya gabadheedii Biriya waxaa sawiraysa George isdiyaar waa baxaynaa haya wiilkayga shaak hooyo maxaa dhacay saaxiibkayga qaaliga ah ee Vijay barbaatay ma dhawaleena hadduu Krishna sida u dhaqsiya badan lagu imaalay laakiin aniga cali sidii hadday yeerta hal daqiiqo gudahood ugu imaanay magaceygana waa badmaash Vijay saaxiibtaada waa labadu aan ku dhaba ku roosaa nasiibkaaga rutamiya dooni mayno dadka in la soo ma doonayno yeeli mayno maya laga yeeli maayo in la soo qabto waa dadkan waa dad tuuga ma yeelayno waa ka horjeednaa midaas waa ka soo horjeednaa Vijay aniga waa ka tagay bye Vijay bye yuu noqon doonaa doorashooyinka soo socda wasiirka arrimaha gudaha dadweynahana waxay sugayaan natiijada ka soo baxdo wasiirkii hore arrimaha gudaha ayaa u magacaabay ninka la yiraahdo Shariif inuu xilkan uu ka qayb galo shicibkiin ani waxa idinka codsaha aan inay dooratiin hadda ay dooratiin malaaga iyo soo raqiisan ka dhigaan halkan firyan iga dhigaan waxaan sugnaaba waa natiijada ka soo baxda doorashooyinka dhici doona sanadkan gudihiisa yuu noqon doonaa wasiirka arrimaha gudaha doorashooga ayaa sheegay arrin la adduunyada horumar ayaa la gaaray hadda anaga wadnaha ayaan daaweynaynaa weliba anaga waxba qalil aan samaynin qof walba xanuunsan maaha in la qalo mar labaad ayaa khasaare soo gaaray red team khasaare soo u geystay yellow team waxaan sugaynaa jawaabta uu ka bixiyay milkiilaha kooxdaas Mr. Arkey saaxiibkii Mr. Napoli haddana kooxdee waa laga guuleystay markaan lama waaye Suuriya iyo kooxdiisa amarkaliya boqor ayaa tahay gaari Mercedes ee maalin walba ku socota hal ciyaar oo kaliya laga badiyay maxaa u aragtaa weli arrimahaaga duulimaado waa ay ku socdaan hawalwalin marka adiga أنا خسارين بدنا إسوق قرتي هذا ديارين كي وقتها جبان إسكراع شغالين كنا قريال كذا وكل هول ولين أديك وحول بوقرش وكابح أنا وحن دياره هنا ندبكو بسعودي مرك أديك مرقدي إسكده وحول أنا كاكو قبناي وذا يوم يهوبتا هذا الكلام كله هاي أنا مهوب لكن نكاس بلان تو يجي قاضي وبلان أوه أنا كان واقو كلسون هاي
garanti ayaan ku siinayaa ninkaas shaqada uu qabanayo waa shaqo lagu kalsoon yahay marka ha ka welwelin adiga abuwa ku tuugaha igu dheelinba garoonka soo la soo galin maajaa man of the match dhiibe ninkan yaasnoo ahay raama ayaa lahaa markuu siyaasadda ku jiro krishna ayaa lahaa markuu degaa shaxda ciyaaraha karna ayaa lahaa markuu dadka caawinayo ninkaas arjun ayaa lahaa markuu rabo inuu wejiyo badan isticmaalo ninkaas nin siyaasaddiisa la fahmaayo maaha qaabo fara badan ayuu u dhaqmaa runtii annaga waxaan ugu wacnaa badmaash wareer ciyaal xaafadeed isu soo aruursaday maxay tahay sababtaad aniga lacagteeda u qaadateen mideeda kale aniga imaba taqaanaa waxaan ahay anigu waxaan ka tirsanahay ciidanka booliska ayaan ka tirsanahay ani afkaan aku hadloosid makasay afbanaadir igu hadlayaan ku dhahay afbanaadiri ayaan rabtaa soo maaha nooca doontid ayaan kugula hadlaya diyaar ayaanu ahay inaan lahjada doontid iyo nooca doontid baan kula dhaqmo ee waxaan u baahanahay keliya ujeedka aad meeshaan u safantihiin maxay tahay ujeedkiinna adiyaa tahay laakiin iskee sheeg waqti isbarsho ma taagne ciyaarta maa naga bilowdaan idinka see wax u wadaan saaxiibayaalow ciyaar nooce ka hadle haddaad awood u leediin aniga isoo qabta yaa ninkeena ku soo qaban waa nala fududay xanoo gasha waxaan idin ogolahay haddaad isoo qabataan inaan idin siiyo konton faa'iidada waraahoy meeshaan ilmo yariis maa joogaa meeshaan dad waaweynaa joogaan ku dhahay meeshaan anaa atoorka meel ani atoorka arta adinaa ku bootaysid meeshaan haddii sheeg kale akeentid jimicsime dheel kalaa lagu baraan ku dhahay dheeshaas ma kasee Calooshiisa fiiri. kasaaye shaaruqaan hore u dheelsiiyey jamak jallo aan dhahaa waa niikiyaan ku dhahay jamaal khiyaanoole anigu waa ku ogaa awal inaad bujiyo looqaqa ku guda jirtay laakiin anaa ku aqaansaan ku yeelay abaalkaaga ayaan kaa waraabinaa war atoora bes naga dheh adna lacagtiis naga sii maxay tahay ujeedka lacagta intaan leegad aniga ii siinaysa kaale masuuri ayaad ii siinaysaa walaasha miyaad igu daraysaa keen lacag sawri anigaa iskale laakiin ad xariif ma batihid be maxaa jira anaga bangiga lacag dhamma nugu jiro xariif haddii tahay lacagta qaar naga siino annaga asxaabtaada maniyo xariif magaala ayaa tahay yaa ma soo kacay aboo kasmayga aan waa jiifi baashana ay wareeray sankiina ay gashaa ka baqay inaan soo kac marka dana igu jirtay maxaan kaloo sameeyaa hadda dan kalma inaan soo roor leewaay fakata asxaabteeda kuwan yaa la dhaafin aan ku dhahay meelahaasay ka imahayaan koodkeena ugu imahayan waxay raba lacagteen inay qaataan ma ka yeelanaan ku dhahay oryaa bootole kabtanka kriketka ayaa loogu talagalay 11 ciyaarto inuu wato aniga waxaan ahay boxer iskana kiindhicin kara meelna idin saari kara hadalka daabadaysaan aboo gabdhaha loogu talagalay guriga markii la jarxa infiyoor ay saaraan adiga marka waxaa taa huwaa ninkaan isku dheelsin ninkaan qatar waan ku dhahay marka sagaalama duufaana imahayaan ku dhahay maamaha meesha isaga carfo aboo roor me fakata kama futur laakiin laa intee
maamaa ninka ka gabo abubadi besa waa tanaa lacagay lacag I love you besa runtaa waa beesa way tahay laakiin ciddii lahayd marka hore aan u geyno saaxiib see kaa noqota beentaa maaha sax waay arkay laakiin waa horta inaa u tagnaa abuu lacagta boorsada ku jirta haddii saan culays u tahay tan qasnada ku jirta ka waran maka badno meeqanoo la siin doonaa laakiin asxaabtee waa iga farxiseenani dheh beeg khamri markii cabaa jab barafaan ku darsaa laakiin fishideed soo socdo albaabka iga soo gali wixii rabtiin lacagtaan ka baxsada ani maxaa yeele waa nii jeclahay asxaabteedaa tihiin annagaba waa ku jecelnahay sidoo kale laakiin waxaad ogaataa inaan ciyaarta ciyaarayno lacagna waqtigaan u baahano annaga ayaga weydiinayno saas ma aha adi shaleema loo socdaa lacag loo saal rabaa see waay adiga qaad lacagtan hoo tan qaado saas Tanna ku darsan ku dhahay. khataraa tahay adeerka caawa aad iyo aad ay farxisayaan ku dhahay amaasanid waa ku tuuga ani batuuliyaalka markii ila joogaan aad adeer ha i dhihin haddii kale aniga raal noqo fiiri an bees markii helo maskaxdii maxaa kusoo dhacdaa makasii hees macal muusig macal laxankeeda iswato marka inaan tumanno waana keen soo bax ಜಗಮೆಚ್ಚಿಸಗೊಂಡು ಇವನೋ ಜಗವೆಚ್ಚಿಸಗುಂಡಿಗೆ ಯವನೋ ಕಾಜೆಚ್ಚಿನ ಕುಲದ ಜೀವನೋ ಬಿಸಿಲೆರಚುವ ಚಂದ್ರನೋ ಇವನೋ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಚತುರನೋ ಇವನೋ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೆರಳಂತವನೋ ಅಬ್ಬರಿಸೋ ಸಿಡಿಲಂತವನೋ ಸದ ಮಿನುಗುವ ಸ್ಟಾರೋ ಇವನೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನೋ ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೋ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲೋ ಇರುಳತ್ತಲ್ಲೋ ನಂದೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನೋ Maro Exana Maro Exana Maro Exana Chalave nanna battery backup always dildaru hige yuguru endu regutiru ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೇರಿಂಗೋ ರೆಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗೋ ಕಾಲು ಎಳೆವ ಮಂದಿ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ ಕಟ್ರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೇಕೆಂದಿದೆ ಟೀನೇಜು ಜನರೇಷನ್ ನಗು ಬನ್ನಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡಂತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬದ್ಮಾಶ್ ಏನೋ ಬದ್ಮಾಶ್ ಬದ್ಮಾಶ್ ನಾಚೋ ಬದ್ಮಾಶ್ Giving love and take love, Superman the bug, and you ain't no damn scrub, but monster hustler. He been calling since the younger days. We getting paid, no delay. Let the hero play. Who wants to play the game? I am the game. I'm still winning the game. ಜಗಮೆಚ್ಚಿಸಗೊಂಡು ಇವನೋ ಜಗವೆಚ್ಚಿಸಗುಂಡಿಗೆ ಯವನೋ ಕಾಗೆಚ್ಚಿನ ಕುಲದ ಜೀವನೋ ಬಿಸಿಲೆರಚುವ ಚಂದ್ರನೋ ಇವನೋ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಚತುರನೋ ಇವನೋ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೆರಳಂತವನೋ ಅಬ್ಬರಿಸೋ ಸಿಡಿಲಂತವನೋ ಸದ ಮಿನುಗುವ ಸ್ಟಾರೋ ಇವನೋ action ukaadi sug boorta banaanka waxaan jooga maxaa waay eeyahan aan kala burinaa wariyaa idinka maxaa meesha qabanaysaan waa idin tuuga idin dha meesha ka taga war baxa idin dha wariyaa orda kaala maamaa soo istaag adiga maanta axad waay maxaa meesha ka qabanaysaa ii sheeg axadna lama shaqeeya see wax kaa noqota adiga directorka madooga banaa i wareeray axad iska dhaafa jimca daama i fasaxo kan atriisha ka dhunta bambay wuxuu igu hayay atriish inaa u keeno waay anna waa yaabanahay ilaahay hadda waxaas ma okay atriishadiina xaggee aadda ii sheeg maamaa atriishadeena karavaana xaafadeeda jirtaa ha ilaahay hadda weli ma imaanin marka sugba yaa ku soo wacay hay fiiriba sida u taaban horta dhegeysa adi maama isdeji
directorkan ku wareeriyay waxaan ku tusaa 10 uusan weligaa hilmaamin inaan u dhigo si fiican hadalkayga u dhageyso aniga magacayga waxaa la Shankar CBI Shankar يا الحافظة ترتيب جوي هذا ماشي شقة كسعتين صعد يستاجر صعد إيبنا يا ماشي قفيا مدة بدن أيام كوريونا النوع وكل إنا مش كي موقته مركز إنا صاحبنا نقولنا ربع أنا سوسو دوانو إن تهذا كلام حي تاي ماشي أن وجدت كأدو فديد إن تكفي إلى سعبتو أنا لبدينا صوشة كسرنا حوجة هذا يوفعنا ليد وهذا راعي سابي إلى تاي كقدرنا هدنا ساعات فيرنيسا سيد اللي علي روح في الجوج أو ساعات لو صقلا حد في الجيسة أو فيرنيسا سوح كان نقول نريد جرت عدني سدي يا أخي دايركتور كان واقي وريري أتريش الروع موقته أنا قبل ريك النذا تمر كان الصبح أتريش الربون بي أنا قلت يا لا جربا صباح مرك الدايركتور كان أنا كسب بلن قاضي يا أخي ملك أنا مرك قارو حنجلا موقته سيد الشيروقان وكلا سلمقان وكلا إن قعنتنا كاقطارته سوما أديك أنك جيدو سو يستاق مرك أديك هاي وريرني سوقع سو أديك صباح أديك وحوم مقلي ميسيده gacanta ka qabtay waan ka xumahay xogaa waa ka raali gelinay mideeda kale gacanta daada ka qabtay markasta aan ilaa ku guursanay marka guurkeena kadib xitaa saanan gacanta soo haysanayna marka soo bax ha isdejinin adiga mudane dhageyso anigu waxaan ku leekaad gabar Banjaabi inta gacanta ka qabat iska raacayso teeda kale hadaan ka aamuso waxa kula noqotay inaan ka cabsanayo aniga adigu waxay tiri soo bax kaal kafee ila soo cab ka bacdi sheekan dhex marayso kadib lambarada kala qaadanayna kadib marka lambarada kala qaadano waxa bilaabanaysa message habeen iyo maalin message-daas oo adigu waxay soo qoraysaa waa ku jeclaa ana waxaan ku soo qorayaa waa ku jeclaa kadib waxa la gaarayaa xilliga guurka waalidiintu waxay leeyihiin wiilkii gabadha isku nasiib ma aha kadib adiga niyadda ka dilmayso anigana sidoo kale sigaarka cabistiisa waa halis sidoo kalena kafeega wadna garaac ayuu leeyahay ma fahanti biriya waqtiga showga la jooga soo bax adiga mudana haddii aad leedahay sheekadan dhex martay xiriir jecel ayaa ka dhalan karo waa soo wici kartaa waxaan igala soo wacaysaa radio mirji haddii aadan aqoon lambarka laga soo waco radio mirji waxaa weydiinaysaa aniga walaalkay darawalkiisa asaga ay ku sheegaya bay تفيري تقنك أتريشدنا ما بها لكن وحكوا ويدنا يا تهرتي شغل صاحبكي ورميس ولا كلام كوري جودها لا فديها لابت معنا جعل حنا هاي كدرو دي بدلوا بسوا جناح اللي قاعدوا دتك جعلكم كل جناح اللي قبل أروري وين سلامة دتك كنا المقالة بانكالور وبريا برنامج كذي ترتن كذا اللي يرضى بس ويلشيدي فير جود واد غوليستين لكن لهم باهنا غور والبا inaad ku dhex jirtaan isboortiga ku dhex jirtaan waad ku halaabaysiin iska ilaaliya marka waa dhamaatay had shukaraata aan siinaya wiilasheedii hoo adigana qabso waa ku siinaa sug adiga
maya sug adigi imaan darraa isku ridin aamus adigi adigana hoo kulli waa idigu filan taha aniga waxaan ku yiri lacagta laga qaatay dib igu soo celi adigana baakad jukulata ay keentay soo maa hay سيمبر واحد في عن قعماق أنا نظيف هذا أنا جن سيدي ذو وحن جعلها نظيفك سيدان عمل هاي التليفون اللي دعوة مظنه وها قبض بها أظن له رما يا ما قبضت ذو يا ربو قبض هلو ولكي يسيف عن ودقيسو أنا وحن قولي لها نفط هذا هلس بيكو جرتا نفط هذا وين هذه لسا وحاكوها بون قارين هذا الراعي المحايلة خطرته ميرول بأي كاي إيمان كرتا بدي أي مديك هذه وين هذه إسلا لسا ساعات أنا قبل واحد قاري والراعي مجرد ديار تجيب بس الأول رخصيها بدل الإدياري فرحان وتقعد رخصده باي حمد أنا قاعد تجين هيا نقب سمرسو وادي السلام ورياشينا maalmaha kan waxaa la sheegayaa ciyaaraha cricketka in isku aadkooda dhibaato badan ay ka taagan arrintaas adiga saameyn ma ku leedahay maya arrimahaas inaan faraha la gashaan looma baahno markaa maqasho boqorka garoonka ku dhex jiro markaa su'aalo iga weydii waxaan ku weydiinaynaa niyo dhibaato miyaysan kuu keenin arrimahan cricket su'aalahaas faraha badan lama loo baahnaba aniga sidaa wax u rabtiin aad kugu qabanaa taasna anaa ballan ku qaaday idinka isdajiya mideeda kale waxaa jirta in qolyo burcada bangalore ay soo weerareen arrintaas maxaad ka dhiileed adigu marka adiga magacaaga fiyaa soomeen ha su'aasha ay weydiinaysa jawaabteeda caawa hal saac binamaan ku siinaa teleefon ii soo dir waqtigaasaa ku siinaa haddartaan waqti ay u socdaa sii baxaya maxamed ina hataa dhaqaaqin adigu xagee u socotaa war la hadlanik nabadii hay kuwan diyaaradda jubba isoo diyaariya iyagana moota isoo wadaan kuwanaaba nacabo xagee ka yimideen sida la wada ogsoon yahay siyaasiyiinta shanta sano ee doorashada markii la doortay kadib cid ay wax u qabtaan ma jirto haba yaraatee laakiin master raaj waa nin shacabkiisa iyo dadkiisa ku dhex jira haatan ayaynu raacaynaa mooto ayuu raacay waa nin shacabkiisa ay jecel yihiin barnaamijka ayaadna ka daawan doontaan sidaad ku aragtaan haatan waxaad u jeedaan wasiirka arrimaha gudaha oo mooto dul saac dhacdadan la yaab kale oo wasiirka arrimaha gudaha sameeyey waxaynu jecelnahay inaynu idinku soo gudbinno moobiladiina si aad muuqaaladaasi dadka kale ee barnaamijyada ka daawada akhbaarteenna aad ula wadaagtaan waa idin salaamo shacabka reer bangaloor halkan fursad ayaa taalo fursadaasna waxaa ka faa'iidaysanaya dhallinyarada waxaan waxayn ka weydiinayaa filinkii biisa meel hadalladii ku jiray waxaana waxayn ka weydiin doonaan 3 garsoore oo barnaamijkeenna marti inoogu ah sidoo kale waxaa barnaamijkeenna marti noogu ah atriishadeena caanka anushka bande hadda waxaa inoo bilaabanayaa showgeena daawadayaal jaandini qalbigayga macnaha أنا كافي عياقة أنا مجد قلبي يقطع وحواي أنا نفتك صحة دافع يعني كل جعلها قلبي أنا حقيقي ماليش عليها أنا ما كملت أنا حقيقي قبتي أنا كدرن ما وحواي ما جر I'm waiting. ma jira aktar la ciyaari kara atriishadeena anushka bande fadlan hadduu jiro maslaxa soo fuu aniga diyaar waa su'aal walba aad weydiisad inaan kaaga jawaabo ka leexda wadada badneed laxda dadka maama idii mikrofoonka adiga nuuriya keen soo qabo qof ayaa aniga magacayga ku dhawaaqay ha yeeshee diyaar waxaan u ahay inaan su'aal walba aad weydiisaan ka jawaabo yuu ahaa qofka aniga ii yaray magacaygana ku dhawaaqay ukaadi adiga ay noo ahayd teeda kaleeto kama mid tihid ciyaalka kollejka waxaas mar hore ayaan ka gudbay waa laga qalan jabiyey waa la daadiyey macnaha teeda kale ardada kollejka dhigata dhammaantood aniga waxay ii qadariyaan si ixtiraama sababtoo aniga waxbarashada waxaan ka soo bilaabay meesha hoose marwa teeda kale aniga waxbarashada iskumama dhibinba waayo waxbarashada waxaa laga soo bilaabaa meel hoose dadka qaarkood intixaamaadka ay ku dhacaan laakiin aniga waa ku guulaystay adiga waxaad isku dayaysaa inaad aniga su'aalo badan weydiisa laakiin waxaan ahay kabtanka kubadda cricketka ee gobolkan weliba magaalada aan joognay ee Bangalore waxaad ogaataa su'aal walba aad weydiisay inaan diyaar u ahay ardada aniga way qadariyaan waxayna ii qadariyaan inaan ahay walaalkood ka weyn hadal kastoon soo jeedina hadal kala ma saaran waxaan ahay walaal ima ay dhahaan waana walaalahayga aan jeclahay waxaan ka codsanaynaa intaan maslaxa soo fuulin ka hor inaa anaga magacaaga noo sheeg sababta waxaa la ciyaaraysaa atriishadeena caanka ee anushka bande soona dhowo walaalahayga aan jeclahay si fiican aan soo dhageysano aniga meeshan waxaan rabaa inaan ciyaar yar oo musiga aan ku soo bandhigo ciyaarta musiga ayaan la ciyaari doonaa maahan atirshada dhinacaas fadhida waxaan la ciyaari doonaa atirshada masraxa saaran ee sacabka idinka ayaa laydinka rabaa laakiin maxaaba aad dhigdhan ma leed ba tooraan xishooga mujadido xanaag aad ma inta ka tagno ama dagaal suube waa maxay waxaan shaqajaannimada aad samaynaysaan idinka ها محاول لكن إجامس بحس هذا سامك بحا كنا بح باور كافول ماشي أنا وعلي لسبة كبح موسيقى ده أو دي جي موسيقى يقول نفاق كنا هاي
no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man. ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಕೊಂಬೇಡಿ ನಿನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ತುಂಬಾ ವೈಟಿಂಗು ಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ಇರತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸಿಕ್ರು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡೆ ನಾನ್ ಅವ್ಳಿಗೂ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ನೋಡಿ ಬೆಬೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳ್ಸು ನನ್ನ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ಸು ನಿನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ದುಶ್ಮನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನೆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ka joog adiga waxaad ku ciyaarayso soo lama socdin in hantidiisa inay tahay banooniga wiilama tuurine tiim cusuba xagee ka keenta ninkan ii sheeg ninkan kuleela soo qabtay meeshan qaboos u imaaday ha imaad ma xume adiga kuma taa isku sheegba aniga magacayga waa Dr. Ashok laakiin adiga maxaa ka qabanaysaa halkan oo Dr. Ashok miyaa ninkan marar badan ayaan TV-da ka daawaday xaaladahaagana si fiican ayaa ula socdaa aniga waxaan ahay Raja Shekhar waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada laakiin adiga maxaa u baahan tahay oo halkan u timid maxaan ka caawiyaa macnaha runtii aniga wax caawinaad adiga kaaga ma baahneen dhulka ku taagan tahay aniga ayaa iskale waxaan ugu talagalay isbitaal weyn inaan dhiso marka aniga waxaan ku dheelahay dhulkan inaad ka fogaato ay dani kugu jirtaa isbitaalka waxa lagu daaweeyaa cudurro oo kaliya halkaana waxaan ka dhisi rabaa mandarkan waxa lagu qabanayo aniga kaaga sheekeema adiga aqoon ayaa u leedahay adiga su'aalan ku weydiiyay mandar in laga dhiso iyo isbitaal in laga dhiso keeba kula fiican ii sheeg inta adeega waan arkay askari ninkan beledku sheeg sharci inuu ka jiro dhulka inuu ka fogaadana wuu ku khasban yahay maxaa yeelay aniga ayaa iskale oo kaadiya markaas haday tahay arinta fadhi waa inaan ku dhamaysanaa nafriisi horta marka hore aan fariisanne maya kaale arinta dacwo ma joogto maxaa dhacay doctore waa ku bariya arintan dacwada jooji maxaa ritaadii jareedada in lagu faxsiraa waa ku bariya doctore arintan ani aad dhamaysan karno isbitaal waa ku bariya ninkan la hadal arrimahan hala joojiyo isbitaal la hadal ninkan waa ku bariya arrimahan ani asiga dhamaysan karno wada hadalna ani asiga laga joojiyo qabtaa ii sheeg hadda doctore adiga nin mashquul ayaa tahay inta badan howlo ayaad ku mashquulsantahay marka qofku waa inaad jaanis siisaa hadda go'aansi inaad saxiixdo waa saxiixi kartaa qaybta hoose loogu talka saxiix waayahay mataliya adiga mise saxiixe waxaa saxiixda ma taqaan horto iska fiir horto marka hore micnahaaga muxuu yahay 60 ilbiraqsiyo soo socda inaad dhima doontaa qalinka ku dogta adiga ya kaalay kalbiyo war isida
aniga artaa inaad jaraadada igu facjirto soo maahan haddaan kaa yeelabo waxaa igu balane meesha madarkaa ka dhisaa inaan marka hore adiga kugu aaso kadib aan madarka ka dhiso isbitaal riyaas waxaan qor ku dhaho qor adiga waxaad qoraysaa aniga tuug ayaan ahay qiyaanole eh dowladdana waa dhacay haddeertanna waxaan rabaa dowladda inaa ugu daaqo dhulkayga qor waxaan qor ku dhaho adiga amarkayga qaado adiga waxaa rabtaa inaad jaraadada igu facjirto soo maahan anigoo boqorka gobolkan eh wasiirka arrimaha gudahana eh inaa i facjirto artaa soo maahan kalamiyow walaal ka joog arrin fiican ayaan ku hayaa lacagtaada cidda dhacday ayaan hadda soo ogaaday waxaa dhacay erkey ninka la yidhaahdo oo tigina keen دربجيف كسته وحب بالله إنه أنا قياني وسميه لكن أنا جاي أخان قاب كل والله جرو باي دكتور ما اسمه حافظ رسا دكتور ما تادي قسم كأنا دحمر السلام بانه سو استك دكتور سو استك كرو استك دكتور محك ود عادي حضر تنقرق عادي سه وحنا وش ساعد هذا ما سنا مدرك دسرته مدرك ما سنا لقى دسه هنا أديك كو أنفعت دونه دمو أنفعت hadda waxaan ka rabaa guriga tartiib u aad dable ninkan waa inaad kullu ku siisaa sida ugu dhaqsiya badan leh gurigiisa ku geey asigoo nabade hooy orda dhaqaaja adigan ad soo sax mugana sii waan leedahay hadii badbaadi baan soo sax guruja telefoon ku soo diray صاحب يا الواحد هيا أرين فرحة لا أرين تاس فرحة لنا واحد تمشي أتاجنتين يقبل كانوا دن بقول كيس أنا نقرأ مرة جوردن وحلي دور عمر لبعض وزير كأرمها جده صوب إحنا كنا وايد سلام شعب كريه بنغلور واحد هذا وارجي بريا وبرنامج كميده برنامجيدي كبخي جيره راديو مرجع برنامج مش ugu talagalnay dadka dalxiisayaasha ee imaanaya gobolkeena si aan u barno luuqadaha looga hadlo gobolkeena Ramayana iyo Kanada وايد سلامay ku soo dhawaada gobolkeena waa ku dhownahay walaashay boqol dashramata wiilkiisa weyn waxa la oran jiray Lord Rama yaa qoray luuqada Ramayana ma taqaantaan ku dhahay xitaa isku ma day kartid miya ba xasan maya waa filmiiki barashada luuqada gobolkan aad ay u fududahay qof walba kula hadlana waa inaad ugu jawaabtaan halkaad naga dhageysanaysan waa radio Mirja 98.3 arsaacibkay saacada qatra dadka dalxiisalka ee cibrisa luuqada Kanada qof Ingiriis wax baraayo kale qofta caadi ma macallimad ay noqotay waana ku taageersanay arintan marka dhaaf walaalku waxaan rabnaa hal mar inaad xafiiska ugu soo booqato dhalinyarada gobolkan degan ayaa waxay buuqi rabash ku kiciyeen bariya way waxay isku dayday inay dalxiisyaalka barto luuqada Kanada dhalinyartan waxa ay leeyihiin sababta ay u baraysa maxay tahay marka ilaa hadda waxa la sugayaa dhalinyarta qofka madaxda u ah kaasoo rabo inuu meeshan su'aalo ka bixiyo su'aalahaas oo uu weydiinayo gabadha ma yeeleen anu ka caadeen min waydin bariya qof ila hadlam su'aal walba ay weydiisaan ana in kaga jawaabay aniga diyaar waa sababtoo ah waalidiinteeda waxay soo bareen inaan difaaco luuqada Kanada diyaar muta inaan su'aal walba ku weydiiyo aad ka jawaabtid marka hore adiga magacaaga noo sheeg waqti isbarasho ma taagna ee qofta su'aasha si toos ah aan u weydiiyo hayo hore u gal okay waxaad noo sheegtaa magacii aabihii dhalay Rama boqor dashraata u ahay okay waxaad noo sheegtaa saddex gabiya oo caan ka ah gobolkan Kanada magacyadooda ayaan u baahanahay kulli hadda waxa ila muuqdaa inay su'aasha jawaabtooda aysan haynin aad ayaan ugu xumahay maadaama su'aashan weydiiyay ay ka jawaabeen aniga saaxiibadeed diyaar waxay u yihiin inay saddexda gabiya waliba sida ugu dhaqsaha badan ay idiin sheegaan saaxiibaye adiga ayaa laga rabaa si tartiib nagrata kajurata barsat hal magaca iga dhiman yograt bello aad ayaad uga baxsatay saaxiibka inaba caadi ma tiid ka gudub saaxiibkay wuxuu diyaar u yahay su'aal walba la weydiiyo inuu ka jawaabo su'aalo badan ayaa idiin harsan waxay tahay marka waa sii gudugalnaa soo ma saaxiib diyaar ayaa tiin soo ma wad hayo okay waxaa laga rabaa oo kale inaad sheegtay Raj Kumar filinkiisa ugu dambeeyay noo sheeg Shabda Bedi sheeg filin Karate Kid Shankarnaag oo yaa qoray luqadda Ramayana Valmiki okay calanka gobolka Kanada imise kalar ayuu ka kooban yahay ayaan ka rabnaa noo sheeg taasna gaduud iyo jaallo okay way ka jawaabeen su'aasha ugu dambaysa Ramayana aabiis ayaan wax idinka weydiinaynaa xaaskiisa labaad wiilka dhashay maahana wiilka curadka hooyadiis magaceeda ayaa la idinka rabaa inaad sheegtaan tartiib si degan u sheega idinkoon iswareerin waliba su'aashan waa su'aal fudud haye saaxiib been lama waa su'aasha been waa ku dhac anaaba ku wareeraba see laakiin
oo ku dhiiqato kuwana adiga ka jawaab saaxiib macaan أنا أسكت يا أبو دروبالي عليا بجالي اوكي بيلا يا تنتقل صاحب ما يدافع كده عيارك كده شرط أنا كده نوقفت قال صاحب سؤال بدنا ويديننا انه قال هذه سؤال وكلي وحير إيديا كده إيديا ولا فير أنا دتك بحرب سؤال أنا كده ويست أنا يودي عنك بس كوميا يقولوا سان أنا بحرب أنا كده ولا صاحب هي صح أنا قال حق وسعته صاحب بدني من هو يا أخي اسكت لك قفت أنا قلاية اوكي لا أسيتف إن قفت إن لو شيء يربطها يا waxaan ku leeyahay thank you oo kale wali English miyaad ku hadlaysaa adiga ma xishoonaysid miya saaxiibada inaan kugu yar kama baqaysid miya adiga haddaba adiga ii ballan qaadin ay difaacaysa saaxiibada maahay cid walba soo wado aniga diyaar ayaan u ahay ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶ ಸಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಾರಿದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ಸು ಯಾಕೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ علمكان عصريوبي او عبراي عد علمي عقلي واي علاتي عذد ما هي أيه عذركي عصرتي كوغارو عودي اللي اسكو عاي عيب ما هينو انا هبينكي تاجرة هاي لكن سوعدان waxaan kusoo kacay anoo faqiir ah bajaaj waxaan ku raaca aan la aybani maxaa soo biya qiyaana leegu sameeyay ilaahu raxmar wariya raxmar ma iska ala calaysa wariya annaga noo sheeg waxaad u baantay annaga ku qabanayna sidee wax u jiraan hortii faansi sidee wax u jiraan anaa ku sheega wadaayo Suuriya bay iyo walaalkiisa igaadeen tartan waa la geli jiray ciyaartii krikeetka ahay aan ku balan inaan dheelno laakiin khiyaani igu sameeyeen laba camal lacagtii iga qaateen haba iga qaataane saaxiibkeyga u diri lacagtii waa ii keeni kadibna ani waa farxi haba farxi lacagtii dibi iga qaateen ani habar qabayaalka okay waa yahay wada hadal baan la galay maxaad wada hadal loo gali weydiniyo nin weyn waa tahay wada hadal isku dhaa wada hadal ani waa gali maxaa suubi makase wadaayo aan dhahay arintan waa dhacday waxaana suubiyeen tiimkeyga qof kamid ah marka ay dul qaado xumaan ha ay qaadanin maxaa yeelay lamadeena saaxiib baan nahay lamadeena magaaladan waxaan ka nahay lama ganacsato waaweyn ah marka ani ina ila dagaashid oo ii furfurtid ma aha ina ii farxadaan rabaa diiyo doyrna ku wada labadeena dhawa iska dhigeen horta ku qabo muku anfici miya soo hadale xaqiiqdii arrinta ku fikray adigaaba ka hadlabo hadda waxa loo baahan yahay ganacsiga oo dhan albaabada u xirtay sida ugu dhaqsiyaa badan maxaa ka leedahay arrintaas wasiir tuug afar meelood meel kuma ogoli horteedana ka dhaqaaq haddaad isku daydo magaalada dhexdeeda inaad ganacsi yar ka samayso intaan kugu dhex imaada ayaan kugu dhex dilaa waa igu ballan midaas walaal guruu haddaad ka dareenta dhaqdhaqaaq ganacsi waa inaa aniga soo sheegtaa wari adigana iga horkac hay-ad mi caawiye ii sheegbo hadale maxaa lagu caawiyaa aniga royal kumaro ninka cadeen baa lagu rabaa cadeen laana cidi wax kama qaban karto ninka haddaad cadeen u keento annagu waa qaban karnaa weliba saxaafadeenu usoo bandhigaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ha ka baqin midaas adigu cadeen keliya ayaa lagaaga baahan yahay waa intaasoo keliya master hari haddii cadeen u baahan tahay aniga ayaa diyaar kula ah halkan yuu ahaa ii sheeg kii ku sheegay moo wadaagay kii lacagtan ii keenay adiga waxba ha ka baqin saxaafadda jaraa'idada dhammaan waxaad u sheegtaa warka caawa bixi doona inay isu diyaariyaan mikrofoonadooda soo qaataan teeda kale waxaa lagaa rabaa barnaamijka caawa bixi doona inaad adiga beddelkiisa aad war sii dayso caddeynta aabe okay aniga geem may la ciyaaraysaa diyaar muu tahay waa ciyaaraynaan ku dhahay suuriya baay waa salaaman tahay maxaad u fadhidaa meesha geemkii waa uu socdaa ciyaartina waa lagu guda jiraa weliba waxay maraysaa marxaladda ugu dambaysay ugu horrayn adiga yaa tahay iska sheeg waqti isbarashama taagna ma ciyaarta naga bilowdaan adi yaa tahay hadda ka hor ani garoomada maba kuu arkin ba intay naga soo gashin oo sheegbo
aniga miyaad rabtaa meeshaan ka imaadina ogaadsid aniga waxaan ka dhashay gobolkan kanaada oo 70 milyan oo qof ay ku nool yihiin qaabkiina markaan fiiriyay waxaad ila egtiin ciyaal suuqin weliba nooca ugu edabta daran haddii aad aniga afaarayga soo gashaan waxaad ogaataan cashar waxaan idiin dhigi doonaa aysan dhagay maqal indhana aanan arkin cidina aysan ka sheekaynin casharkaasna wuxuu idiin noqon doonaa mid idinka aayihiinna dambe idin anfaca sababtoo ah mustaqbal ayaad rabtaan ubad inaad dhashaan ayaad raadinaysaan waxaad ogaataan haddii ay noqoto ciyaarista kubadda kriketka waxaan ka mid ahay kuwa ugu caansan gobolkan kanaada ee aan haatan ku sugannahay magaaladiisa mangalore waxaan ka mid ahay xidigaha ugu caansan lagu qadariyo ciyaarista kubadda kriketka aniga magaca maskiinka miya haddii aan magacayga si kooban idinku sheego aniga magacaygu wuxuu yahay master vijay weliba ciyaal xaafadeedka ahaa ka bilaabay ciyaarista kubadda kriketka meesha ugu hooseyso ilaa aan ka noqdo xidigaha ugu caansan dunida iyo dalka hindi yamana waa la rabtaa waxaa u baahan tahay minku noo sheeg suuriya bay waxaad ii sheegtaa qiimaha lacageed aad ciyaartan ugu tala gashay waxaan ku tusi doonaa cashar aadan weligaa arkin oo ninkaana soo hel oo meelahaas sawiraayo hay ad mugaanta ani kaamiriistana meelahan la sawiranayo wax dhiwa kale ma geyso kan waa ay soo qabta maxaa si garabaa muuydiisino lamada ad makasay sidoo kubi anaga hadda ka hor lacagta naga dhacayn waa iga naftirkood waaye ya stupid أكشك ولي بدأ معنا كحيل هذه ولا كتورة This is again a 6-hole long one. His timing then. بطولي حما حقوك بحي أهو سجا حقوق هذا Hey. شود There he goes again. Whack. Boy, what an innings this has been. And that's six. Oh, that helicopter's out. It's gone miles in the air. أريا بس هذا نوعي سلامة نجمود ده حكود عادي isdaji walaalka walaal ninkan suuriya baaliya dhaawac xun ayaa gaaray marka daweyn ayuu u baahan yahay cirbadan aan ku duraya haddii xitaa ayda lagu duro inay runta kaa qariyaan lagama yaabo xaqiiqda ayay ka sheegsiinaysaa anaa ku yidhi warkaas ba warka badan lama raba isdiyaari istoosine hadda waa bilaabatay wax walba oo khiyaanaha garoomada ka dhici jiray anigii walaalkayga ayaa ka dambeynay macnaa king ayaa ka dambeeyey okay warbixinta haatan soo baxaysa masuqmaasuqi ka jiray dhanka kriketka waxaa ka dambeeya suuriya bay iyo weliba walaalkiis ka weyn ayaa khiyaanadaasoo dhan dhigay waa king waa ninka haatan murashaxa isaga ayaa wax walba ka dambeeyey wax walbana waa la ogaaday hadeertan haa saxaafaddu waxa ay sheegaysaa ninkaasi inuu yahay khiyaanoole weyn weliba waa tuug nooca ugu xun weeye khiyaanooyinkan isdaba joogga ayaa waxaa ka dambeeyey xisbiga shakti baarti ayaa lagu eedeeyey fiidiyowga muuqaalka ayaannu haatan idiin soo gudbin doonaa si aynu idinla wadaagno daawadayaal muuqaalkaas waxaad ku daawan doontaan dhammaanba waxyaabihii khiyaano ay sameeyeen dadkaasi ani marrani sheegin ninkaas tuukwani dhaysa qajaama adooranina ani idoorta wax walba raqiisaan ka dhigaani dhawaga diideen hadda waa maxasuubi ummadas khiyaani ani wax walba raqiisaan iga dhigila soorta malaayiga intaba walaalka waana alqiyaani anaga lacagteena dhan waa la qaatiyaan ku dhahay waa ogaa wax walba jaraa'idadan kala socda adiga aamus ma kula hadlooyo shibdhe hadda ma jaraa'idkan ku qoraa halkii herbaadiya ayaana dhacay saas maan ku qoraa odagaan oo khaliif dooraha excess ku maqla dhegihiisa inay cuslaada mal rabo raalli ah waan ku dhahay qof kalena la hadlaya hadda maxaan sameeyaa ii sheegbo iska dhig telefonka horya naga tag halo adna halo haddana halo ma imaqashin adiga horya naga tag dhe saqajaanyo khadkan culays hormud maxaa noo soo geli weysaa tariijiisna ninkaa tuuji ka dhigtaan adii wasiirka
iga aamusaan ku dhahay aryaa intaad nama qoraa demi aan ku dhahay demi mudane arrinta suuriya warbixin naga sii waa ogtahay musuqmaasuq ayuu dadku wadaa marka adiga maxaad ka dhihi lahayd okay waxaan kaloo maqalnay inaad adiga laftaada ku lug leedahay arrintan oo aad wax ka ogtahay waayahay adiga xilka iska dhigaysaa marka noo sheeg ma dhammaysteen waxaan u malaynayaa su-aasha inaad idinka dhammaatay haddayse idinka dhammaan waad i weydii kartiin saaxiibadeyda saxaafadda aan ku leeyahay maanta waxay igu yimideen inaan xilkan ka dega soo maahan anigana qorshaygu wuxuu ahay doorashada kabacdi inaan xilka iska wareejiyo ka gudub middaas maanta o dhan halkaan idiin taagnaay su'aalo fara badanna waa i weydiiseen waxaan rabaa hal su'aal inaan idin weydiiyo su'aashaasna waxay tahay isbuuc la soo dhaafay meesha aan jiray iyo waxaan qabanaya cid sheegi karta ma jirtaa ii sheega waan ognahay inaadan hindiya joogin inta dhiman noo dhammaystir marka very good vikas aniga switzerland ayaan jiray switzerlandne uma aadan filin shaaruqan iyo kaajal ay dhigayaan midnaba uma aadan waxaan u aadaa dadka xisbiga ka tirsan inay dad munaasib yihiin in kale mideeda kale akoonnada xisbiga oo leeyahay ayaan baaritaan ku sameeyey waxaana soo ogaaday musuq maasuq inuu ka jiro waa run xisbiga dhexdiisa musuq maasuq ayaa ka jiro musuq maasuqaasna cid kale kama dambaysa ee walaalkayga iga yarahay ayaa ka dambeeyo haddeertaanna waxaan amar ku bixinayaa walaalkayga iga yar sida ugu dhaqsiyaa badan leh in lagu soo xiro amar ku bixinayaa idinka waxay idinla tahay inaan walaalkayga la jiro soo maa lagama yaabo walaalkayga inaan shacabka o dhan ka doorto waa run suuriya baay aniga waa walaalkayga shacabkii doortane waa familkayga lagama yaabo suuriya baay inaan uga hiiliyo shacabkayga waxay ila tahay su'aalahiin inaad dhammaysteen waana mahadsantihiin waa kuma ninkii igu qasbay maanta saxaafadda horteeda walaalkayga inaan jeelka u diro aniga qof weeyaha ma aqaan laakiin yuu naqan karaa ninkaas walaal guruu saxaafadda intaysa u tegin suuriya baay riyaas waa inuu sheegtaa sida ugu dhaqsiyaa badan leh inuu ugu dhammeeya suuriya iyo maxaa ka jirana meeshaanne saxaafadda su'aal walba ay weydiiyeen kiin wuu ka jawaabay shacibkana aaday ugu farxeen wuxuu kaloo intaas raaciyay wuxuu dhahay ahaw arday faqiira ama siyaasi taajira sharciga kulli way wada siman yihiin mudane hal talankuu wadaa ani waxaan ku dhihi lahay walaalkaa suuriya wadda kale u fiiri oo ileen walaalkaa waa yaala dilin tale iga tahay mudane intaasaan ku sheegi lahay ani haa fiir madaxayga cirrada ku tal shaarbadaya fiiri ma taqaana adiga cirrada waxaa iga soo saaray haddaa sidaan usii fikirine siyaasi noocee naqan karaa marna waxaan rabaa wasiirka arrimaha gudaha inaan naqdo iyo boqorka gobolkan adiga horteeda ka dhaqaq waxay ku farsamay adi laakiin waxaa la yaabanaya landanka maxay ugu diroosaane miinacda ii sheeg kuma nicin adeer see camal haddii uu ku helo king jeelka ayuu ku dhigaya waana kaa caana maalaya sidaas daraaddeed ayaan kuu diraya ani jeelka ma rabo londonaan rabaa inaan ku laafiyoodo okay waayahay london waad aadaysaa laakiin hilmaamin inaad maasejo ii soo dirto ya adeerkay aadaan ku jeclahay adi jubba arles misaaro sidoo aan ku raaxaystaan ku dhahay jubba aniga adiga sidaas hayla hadleen waxaan rabaa inaan moobilkaa iibsado meeshaan waxay ku fiicnaan lahayd hal moobeel markii ged hal xabka lagugu daro wah nin adagaaba meesha taaganba ay saaxiibkay haye ani waxaa islaa saaxiibkaa toddoba galay xilligan waa uu baashaalay adna meelaha dhex wareegaysaa see wax kayin awl lacagteedii laakiin ii sheeg sugba adiga kaale horta sheekan ku haya sugba anaa sheeko haye ii sheeg sheekada fijey hal mar iimow okay gacalis anaa ku imaanaya gacalisadeeda ayaa isugaysa ee lacagteeda waa inaa ii diyaarisaa sida ugu rasaa badan wax ii sheeg noo fijey wiilkii aan rabo inuu ciyaarta ila ciyaaro taleefonkigama qabanayo maxaan sameeyaa fijey wax ii sheeg noo fijey gacalis murugada ikada tiimkaaga aniga waxaan ka ahay number 1 magacaygana waa raamaa ಸಂಗಾತಿಯೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ಅನುರಾಗದ ಮಂತ್ರಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಾ ಬರುವೆ ಅರೆಯಾಗಿ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೀತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಅಭಯವಿರಹಿದನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವ ಹಿಡಿದ ಕೋದಂಡರಾಮ ಇವನು هو رقدان مع السنة كان على فيري مع حسها بريا برتاب سنها ملكوتي اي ساعه بيديبكي او رجل صرت كان كجرا هويا الله يا ساعه تام قاعد الوهله ولا مستر فيري ابو ايه ساعه تام قاعد ولا مستر الوهله بريا برتاب سنها الله فيري ما شادي هي ما قاعد مسترن واي اسكو مقالك ودي مان اني اذا anigu waxay ila tahay inaadan helin qofkii aad raadinaysa adiga laakiin aniga waxaan ku aqoonsaday markii aan arkay baasha aad gacanta ku haysid inaad fijayta adiga ugu dambeyn waxaad leedahay Soomaa waxaan gabadha u dhalay taliyaha booliska adiga fijay qofka raadinaysa hadii aad hesho xataa wali telefoon ma ku dhagantaa ma soo raadinaysa miya aniga saaxiibadida hadday amar isiiso lagama yaabo inaan hal daqiiqo oo qurux xitaa ka soo dibdhaco gacalisa indhahayga markay arkaan wiil iyo gabar meel wada taagan waxaan isweydiin jiray muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya maxaa isu keenay wiilkan iyo gabadhan laakiin maanta waxaan xaqiiqsaday inuu yahay xiriirka ka dhaxeeya xiriir jacayl dhinacyada ayaan kaa fiirin jiray weelkaaga ayaan markasta u baahnaa 1 milyan oo wiil ay tartan u soo gasho adiga in ay qalbigaaga ku guulaysato waan hubaa inay wiilka qalbigaaga ku guulaysan lahaa cimrigayga inta ka harsan waxaan rabaa tilaabo walba aan qaado inaad adiga dhinacayga taagan tahay oo aan ani adiga si kalgacayl ku jiro u wada qaadno iisoo dhawow gacaliso واكل تقلع يا ومركي وريسا عارك لو وقف عيو اسجعلات هدنا عيو xiriirkooda kala go'ay isku nasiib manihi camal halak ana waxaan la yaabanahay isku nasiib manina ayay tiri maxaa sababi kara marka arinta saaxiibi sheeg maxaa saxal u ah haka walwalina lagu dhahay ana ku jooga waxaan dhan ana xalinayaan ku dhahay ani waxaan aqaana dadka nasiibka faaliyo dhan waa khatarsan guruji waa ku salaami waa salaamantahay ninka saaxiibka budhiya Allah markuu dameesh xusgaasada in isguursado macnaa waxaan ku wada haa warqada nasiibka gabadha waa kan hal mar ina ilfiirisa jeclaan lahay maya labadan isku nasiib ma gabadha inta ka fogaa karto inaad ka fogaataa maxaa tiri ku celi ka fogo odayo quraafaadka meesha la taagan sheekada dhageysan may waqtiga guruji raal noqo saaxiibkeega ana fisku daa war mar waqtiga oo fiir labadad waa ka isku nasiib waa ku ana fisku weydii saaxiibkeega way keen warqad hal isbuuc kadibna ii soo laabo ya way waan tuga u fiirile wasi dhunta maka makrashtiisii marashi haddaba hadalkayga si fiican u dhegayso waxaa loo baahan yahay inaad samayso gabar ku dhalatay muka mukarashtiisii marashi inaad guursato haddaad guursato nasiibkaaga wuu fiicnaanayaa nasiibkaagana aad u fiican yahay gabadhan oo laguu soo helay waa kanaa fiiri warqadda sawirka gabadha gacanteeda ayaan ku hayaa fiiri gabadhan adiga haddaad guursato shaki kuma jiro inaad wasiir noqonaysid arrin fiican ayaa samaysay hal dhibaa jiro gabadhan wiil ayaa jecel wiilkana sawirkiisa waa kana si fiican iskaga fiiri hadda waxaad ogaataa wiilkan haddaada iska qaban dhib weyn ayuu ku keenayaa ya mudano halkan baasadeen halka dhacwaabe waa asiga mudane caruusadeeda iyo cadowgeyga garuuji labadooda ayaa labada gacmood ii saartay soo maa
nasiibkayga wuu wacan yahay aniga aniga waxaan islahay lacagtaada tuugo waaweyn ayaa dhacda laakiin ciyaal xaafadeed miyaa dhacay lacagtayda oo igu qasba walaalkayga inaan gacantayda ku dilo hey badmaash laga bilaabo saacaddan kiin ayaa kula ciyaaraya awo gabadha reer bangaloor waa ku salaamay teeda kale maxaa adiga kugu dhacay markii aan maqlay inaan aniga adiga isku nasiibaan xanuun ayaa igu dhacay meel kastana waa layga qabtay teeda kale adna waxaad gursan rabtaa mastarkiin halkanna waa taagan tahay maxay tahay murugada kaa muuqatay ii sheeg say wax u jiraan adiga war miyaa u haysaa dhibaatada aniga i hayso gurigeenna waxaa imaaday ninka la dhaho kingi filimkan waxaa lagu turjumay studio saaxiibaan muqadisho wuxuu aniga igu hanjabay inuu dili doono walaalkay iyo carruurtiisoo dhan anna waxaan ka ogolaaday inuu i guursado gabadha meesha ayay taagan tahay wayna ilmaynaysaa weli ilin dareen ku jirto maxaan qabtaa marka saaxiib adiga ooyinta waxbaa la yaabin naagaha dhaqan caado ayay u leeyihiin mideeda kale gabadha ninka jecesha marka laga wadaayo oo ninka lagu daraayo inay oyso xaq ayay u leedahay ka gudub middaas waxaan ku leeyahay 2 daqiiqo jaanisa sii fijay ninkan waa nin khiyaanoole ah waxaad isku daydaa inay aamintid hadda aan kula hadlaayo waxaa laga yaabaa fijay ninka ciidamadiisa inay gadaashiina joogaan mar walba waxaan kaaga digayaa ninkaas iyo ciidamadiisa inaad ka fogaatid fijay waxaa isku daydaa aniga inay aamintid fijay gadaashaada fiiri waxaa jooga ciidamadii aan kuu sheegaayo dhegaysa beriyaa si fiican hadalkayga u dhegayso boqorkuu ku qasban yahay inuu kun jeer cabsado sababtoo ah beriyaa cabsida ugu badanna waxa ka keenaysa mataqaanaa boqorka wax kale maahane waa adiga jacaylkaan aniga adigu ku jeclahay hadda asaga waa boqorka gobolkan laakiin waxaan ku qasbi doonaa dadka doortay inay gacmahooda ku dhagaxmeeyaan ee magaalada ay ka saaraan weliba isla hadda la taagan yahay si fiican indhahaga u fur waxaan ku sameeyana waa inaad daawataa mudana ninka adisku caahoyaa be gabar siin camal as iska dhigoyaa haa maxaan sameeyaa marka ii sheekee war ninkii naagta ii soo kaxay hay mudane ku amar hadda weerar ku qaada si ugu dhaqsiyaa badan la soo afjara isoorac saqajaanyo maxaa kuu geeyey gabdhaha la qabo soco fijay maxaa kugu dhacay soo soco adigana istubidad yahay waxaan maxaa ka sii naga aamus oryaanacaas isoo fiiri aniga waxaan kaa rabaa si daacada inaad iigu warranto haddii kale gurigaaga ma aadaysid ciqaab waxaan ku marinayaa tii ugu xumeed diyaarad ayaan kugu daba xirayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo lacagta suuriya aad ka qaaday meesha aad geshay ayaan rabaa inaad ii sheegto intaad ku qoraysay haye aniga wax lacaga maba haystaba saa oryaanacas kaale aniga doqon miyaan kula ekaaday waryaa meeshaan jilliinka aad ku waddo kadaayaan ku dhahay runtii ii sheeg aniga cadowgaaga miihi yah runtii ii sheeg adiga yaa tahay aniga waxaan ahay haddaan soo xasuustay aniga raamaa ayaan ahay haddaa doonta raama ahaw laakiin intaad ka imaata ii sheeg bal aniga kismaayo ayaan ka imid ciyaal kismaayo ahay faanolan deganaa xaafadda faanolan macnaha micnahayga suuqmudda markaa ka timaada sentarka faanolan aadan gaarin rudraaba kan fiiri bal wuxuu noo maleeyey askartii joogtay sililaala kaale adiga waxaan kula ekaaday taliyihii diyaaradda watay yaa ii sheeg adaan ku weydinaa si daacada iigu sheeg adiga yaa tahay ii sheeg ayaan ku dhahay haddaan gartay haddaan soo xasuustay aniga xaaskayga sita ayaa la dhahaa sita weliba waa layga afduubtay marka layga afduubtay kadibna aniga iyo walaalkay lakshmaanaha ayaa raadinaynay xaaskayga sita kadib duurka haddaan gartay duurka ayaan ka raadinaynay xaaskayga kishikaanta meesha la dhaho ay waa ku barya walaalkay aawo walaalkay ii sheeg waa jooga taliye hee maxaa daran nina imaada ninkaanas raba inas damaanto hadda bannaankas fadhiya shid iyuu noqon karaa laakiin qofkaas mudane isdeji
maxaa waxan warqadan maxkamadda ay ka timid viji adiga halkan ma ku sii hayn kartid maxaa yeelay wuxuu qabaa cudurka DID yaa macnaha haa daas indian daas ma ka wada ii sheeg bal maya saas maaha macnaha cudurka micnihiisu waxaa waaye qofka asaga wuxuu yahay aqoonin waay marka ninkaan wixiis yahay asig baa xasuustaba hadda arad qof cudurkaas qabo saasoo kale lee waay waxaad xasuusahay ma jirto sheekadan filin nooce ayaa ku fiirsatay sug mudane haddaan soo xasuusto ayna jandarmuki aa la dhahaa taliye haye labadii filin ee kanaada sheekadooda inta ila imaata maho ii sheeg adaan ku weydinaa maya tan fikrad saxa waayaan ku dhahay haa ninkaan meesha malu siixan karo dhibkaana idinka ayaa geystay maxaa yeelay ninkaas madax ayaa jug ka gaarsiiseen waxaasna waa sharci daro hadda waxaas isku haystaa binis asraamaya marka musila socda noo soo dee waa ku tuugaano ani walaalkii hadda adiga si sharci ayaad meeshan uga baxday adigoo matalaya raamaa laakiin anigana waxaan kuu kalifayaa si sharci darro inaan meeshan kugu soo geliyo oo nin geesi ayaan kuu haystay weliba saldhigga jooga see wax kaa noqda adiga beella tahay beella arrin fiicanaa samaysay hashaatiga qabsan awo walaalkii lagshmaanaa very good yaa nagu soo tuuri maya maamaha bixin wax kastoo dhaca gaariga dhexdiisa waa inaad ku jirtaa ma fahanta igu hallayaan ku dhahay okay sii dhex fadhi marka yahoy raamaa hal mar aa xabsi gashi kadib waa ka soo baxdani khataraa iska dhigti siin kuu baadigoobaa ugu dambayntii malayuunbi camalaan kuu qabtay hadda lacagtii aabi ii sheegbo lacagtii aan u baahannahay hadda ka hor ayaa boolis wuxuu i saaray bistoolad runa waxaan u haystay qalin qori ciyaal iskuulley ay wataan wixii ku dhacay ma taqaanaa hadde adiga tii ku dhacday idaacadaha dhan way ka wada sheekeeyaan adigana tiyoo kale maarta inaan kugu dhiga marka ani sidee labalaba ma jecli lacagta misiye mi saaxiibkaaga madaxiisa darbigaan ku dhijiyaa ilaa saddexaan kuu tiriyaa kow maya tartiib isdejiya tartiib boos tartiib adiga sidaa ha samaynin adiga keliya waxaan kaa rabaa inaad ii sheegtay haddii saaxiibkay aad dishid lacagta aad helaysid ama ciidankan aad soo kaxaysatay lacagta aad siinaysid
ها ما لا يعني أودي كو لما أسكو بحان كده كان هورا لقى توكتو أمر كي وابريا أو ترتيب أوكادي إذنك ترتيب استجيب قرية دقة إنا إسفانتان إسكودي إذنك ديلك صاحبك لعق أنت لعق أيها كسو قالتين ها لعقت إيه شيء لعقتها الربا إنا أوكاد بس خمر كلي أيها اللي نسوسي ورانيك توكل اللي يصاب بالقاضي إنا أديك كنت لسوالي سعمل أنا شان كل اللي بلان قاضي بمساوي يا دكتور أنا أقوليتا لما كل اللي يصاب بالقاضي لما كن قفل قلت لي سكدافع قفل من القداوة سوى شكلان أنا ما اللي قد قادو يا فينت إذنك وايدين دم تكالي دعس الآن أيها سعوتان وحيد إن كبر يدين سوحره نيكا دوش قينا سهرت إذنك أقول مولد الذين مسواس كسر عدن أوكليا نيكا دولة حوله هذا أسجع أيها عنا أنا ما نينا مرة نيكا دقة كنت لاني ده هيدا suugaa ku dhahay ninka sheekadiisa dhamaysta walaalka sheekadaha waa dhamaysan kartaa leh okay muhiimadda ninkaas ayaa ka hadlay ka leexda kuwan wajiyada aan fiiriye وريا دليل عن سيف عن سودة جيسنا صافيري ماشان لعقت أنا وجدان واللعق أوريجينال وحنا كسورين جاندي واللعق ده كهندي لقى استعماله قف كستو إذا كم ده وحنسين دون على بعضهم كن قبل العقد سوق أديك ترتيب مد أيام ربعنا إيش كتو جورو أي بتيدا مية قادنا إسا وحفظها كعيار إسا مس الديار ده رنتا أيام كسارة إيشك ما يعني سعي عانى بدن للراعة أبو عانى هاي بدن أتحقق له عمل لعق ما يقرأ كان وركالي ذيك حيوان ماتين reer burful inaan wata ironeed kuwana maxaa waaye aab asxaabteeda warkaaliya aaw gurubaay bistoolada waxaan ku dhilaa iska xarayso waaye iidaa soo dhow ilmaha yariiska le kubu bursaya ilmey ha waa kaasii taga ani haddii kale baani badnaa risibaya aqadi maya degdega joojiya 20 kun oo kale ayaa la idin siinaya laakiin shaqadan idin diro waa inaad qabataan waxaan rabaa ninkan xisbiga uu leeyahay inta tagtaan aad soo burburisaan dhammaan waxay anaga qamri lasna ugu daldala anaga qamri ma rabnaa beesadana adaan noo haayaan ku dhahay adleen ku taageerina ha adaan ku taageerina okay tartiib adiga gurubaay ha cabsanin laakiin fariinta aan ku dhibo oo kaliya walaalka ogeey waxaad u sheegaysaa awoodda aan leeyahay iyo ciidanka aniga ii joogo intay tire leegin soco dhabarkay aad siida بريان وردم دغيسن عشيده maanta idaacada waxa martina uu ah bariyaa waxay ka sheekeynaysaa lamaanihii kala tageen si la isku keenin lahaay bariyaa waa badii fiiri meeshan bariyaa shalay adeeg ka tagtay maanta dadka kala tagay eerta inay dib isugu soo celiso hay ma kula saxan tahay mama idaacada waa inaad damisaa dami hay dami waa dami saaxiibkee badina murugis iyo jilooya marka seen qosol oga keena fikrad in la keeno waaye sug adiga saaxiibkee badii فكرة قطر أكو هاي أنكو داي فيري مشان ورتا ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಿರಣ ಹಾರ್ಟು ವೀಕು ಗುರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಲವ್ ಕಣ ಹೊಂಟೋದರೆ ಒಂಟಿತನ ತಡ್ಕಬೇಕು ಗುರು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ಬರೋದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು
ನೋಡು ಅಂದಿದ್ಲು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದ ಫೋನಿಗೂ ಸಿಗದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸು ಮನದನ್ನೆ ಎನ್ನೆಗೂ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದ ಕಾಮನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿಯಾದ ಡ್ರಮ್ಮಂತೆ ಲೈಫ್ ಗುರು ಒಂದೆರಡು ಹುಡುಗಿರು ಬಂದು ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಕ್ಕವಳೆ ವೈಫ್ ಗುರು ತಡ್ಕಲ್ರೋ ಅವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು sokacba walaalka una koota dad fiican aan nahay laakiin gabdhahan ku sheego waa wada hotel 5 star a busy ka siinay ida maxay ku dheematay busy soo siisi basal malahan cusba malahan bariiska liikana liintanaan malahan meel la raacay mala marka walaalkii adiga naftirkaaga dumaashida qof fiican ma ani saasan aaminsanay gabdhaha dhan isku wada mid waay xataa برياضة كل يقول واحد كسارين كل يقول ماما هذيك قال ماما قال سولو هذيك تمشي ذا مرتم هذا الحلم دي كريس ما فهمت هذا الكيك ماما هذا نقول على ماما هذا نقول على ماما صاحب كيك ورا تمشي صح ما بقول عنه ساعة تمرين بري فيري مشان يسوس بان فيري يلا بدي بقول ما كوان أكيد نلاش هذا بابي موهز بيعنو فيري زبردي زمال والبلوكي وتانية وحمل سا هابي بات دي إن لا دهاي ومنو قصنا مجدا وكذا دقح يصير ما هو قصنا ماما وقصوها كالك هذه سي بيها يقال كان مضرب إنه عشان دقنا عيار ربا اوكي هذه مركب waxaa laga rabaa marka in anaga dabcan anay moogtay waana leeqana magaalada laakiin maxaa sameyn karnaa saaxiibo ii sheeg maama fikirkeen fikir adiga hadda waad ogaatay Soomaa inaad qof caan aad tahay sugbal aniga fikrad keenaya fikrada okay fikirka keen noo sheeg marka meediyaha waxaan u sheegnaa كينج إنه جبت أجعل هذا وكعبه هذا فهم الشيء كذا يعني سواء ما جازن information صبح محاسب شيء كذا ويسكت على صاحب wararka haatan soo dhacay waxay sheegayaan gabadha ka shaqeynaysa idaacadda radio Media lagu magacaabo jiray Rana Bariya ayaa la afduubtay waxaana afduubtay Raja Sheekar afduubkan waxa uu noqday afduub la yaab leh ilaa haatan lama oga waxa uu afduubtay ujeedka uu ka damacsan yahay ninkaasi gabadha iyo qorshaha uu ka damacsan yahay doorashooyinka soo socda king waa ku dhamaatay godka biiku ku soo galayaan ku dhahay beledka anaka taliya ana li doorahan ku dhahay basal iyo barbarooni kulli raqiisan ka dhigaa king waa ku dhamaatay ana joogo meesha ilaa haatan lama oga qaabka uu qoftaas uu afduubtay laakiin waan ogaan doonaa wararka kale ayaa ku arkaa arrimaha kale ogaan waxa ninkaas wuxuu rabaa inuu gabadha u guursado si qodba siraa kadibna uu geeyo Australia halkaas 7 inay ku galaan ayuu rabaa asiga saaxiibkay badi war joogsa ku dhahay badi joogsa meeshaan arag badi meeshaan fiiriyaan ii sheeg adiga kale mama adiga director fiican matid atooraga habeenka siq dhexe laamiyadu isku wareega isagoo cabsan badi meeshaan fiiriyaan ku dhahay warka ugu dambeeyaan ku dhahay meeshaan fiir horta fiir adiga ay itusba ani horaan igu sheegay ninkaas nin tug asiya oo qaacna si gabadhu waxa laga yaabaa in asgo goosto ascuno maliixan aska dhigto mudar hadda waxaan qoray waxay tiri xilliga saxaafadda aan la kulmi lahaa qoraalkaas waa bedelaysaa hay mudar hay saxaafadina cadab ka dhigan ma ahan mudane sirkantii aad bismiska baxada hooshaan ma dhamaysanno mudane dadka siino soo wacooyin waa noogeena ku dhahay sikin walba waana soo wacooyin maxaa suubiyana ii sheeg ba hadda wax walba aan sameey lahay aniga guruuji ayaa ii sheegay hadda waxaa samaynaysaa dhammaan shaqaalaha xisbigeen iyo labada xisbi oo guruubi iyo guruuji kale ah
waa ballaminaysaa weliba xafiiskeena hortiisa ku ballaminaysaa waxaana leedahay mudaharaadka sameeya halkaas aniga la ciyaari doona saxaafadda ciyaar aysan weligood arkin hadda waxaan hor taagannahay guriga xisbiga jaaya shakti waxaana gudaha ku jira Mr King annaga waxaan sugaynaa inuu Mr King bannaanka uu soo baxo oo waxa lagu eedeynaya uu ka hadlo saxaafadda hadda saxaafadda deeni mayna saxaafadda deeni mayna saxaafadda deeni mayna saxaafadda deeni mayna deeni mayna saxaafadda deeni mayna saxaafadda deeni mayna saxaafadda deeni mayna waa idin salaam dhammaan wariyaashiinna waxaad raalli ku ahaanaysiin xisbiyada dhibaatada idin geysteen ama xisbigayga ha ahaada ama xisbiye kale ha ahaadaan mideeda kale aniga waxaan ahay boqorka gobolkan in la aasaasa ninka ka dambeeyey anigana ma rabo shacabkayga inaad dhibaato u geysto idinkana marnaba inaad ku fikirtaan looma baahno in aniga dhibaato idiin geysanayo haddaa idinka taas aaminteen saacaddan laga bilaabo xilka boqortinimada aniga waan wareejinayaa waana ka degaa xilkaas sida ugu dhaqsiyaha badan leh aniga ayaa raalli ku middaas mudana waxaan rabnaa inaan ogaan cidda adiga booskaaga bil waayo go'aanka aad qaadatay waa shacabka dib u keenaya mararka qaar waxaa ku soo maraysa adigoo siyaasadda gudaheeda ku jiro marxalad aad u adag iscasilaadda aan iscasilay kama dhigno inuu xisbigu burburo xisbiga wuu sii shaqay doonaa wuuna jiri doonaa mideeda kale waxaan u magacaabay xisbiga qof sii wadi doono qofkaasna qof meel dheer ka yimid maaha qof gobolka u dhasho waaye aniga ayaa goordhow saxaafadda u soo bandhigaya qofkaas aan saxaafadda u soo bandhigi doonna waa qof aa wada taqaanaan codkeedana muddo badan dhegihiinna ku soo dhacay waadna arki doontaan goordhow qofkaas waa qof halkare shaqada loo dhiibane qof ka soo bixi doonto waan hubaa idinkana waad igu raaci doontaan haddii aan magaceeda idin barne waa RJ Birya Simha fadlan ku soo dhawaaw mudane rajaa waxaasni tusi xisbigeenna inasku dhisnayn maasuq iyo khiyaano xisbigeenna waxaa hogaamiye u ah gabar oo howlkar ah haddana waxaan rabaa inaan idin baro gabadhaas diyaar muu tihiin idig inaad barataan ii sheegabo dhammaan taageerayaasha xisbigayga iyo saxaafadda halkaas kugu timid waxaa idinka codsanayaa sida aniga ii taageertaan inaa u taageertaan qofkaas waa qof wax idiin qaban doonto waadna arki doontaan waa markii koowaad oo qof dumar ay u sharaxan tahay wasiirka gobolkeenna waxaa laydinka rabaa si daacadnimo ku dheehan tahay inaa u garab istaagtaan dhallinyara carruur waayeel intaba waa inaad taageertaan dhammaan taageerayaasha xisbigan iyo shaqsi kasta oo jooga gobolkan waxaa idin leeyahay aniga oo Birya Simha waa salaamantihiin Mr King maanta xilka waa uu iska qaaday wuxuuna ku wareejiyay Mrs Birya taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay ninkan hore wuxuu ahaa boqor balse maanta waxa uu noqday boqor sameeya oo micnaheedu uu yahay King Maker xisbigeenna si ay u soo biireen lamada xisbi AT iyo BT horumar weynaan gaarnay hoo ad warqadahaan ii soo daawac kadibna xafiiska ii geey adna maxaa u fadhisaa wixii warbixinayna ii diyaari dhaqso adna ha ii fadhinin dadka anaga codsiyaalka noo keenaya waa inaa ii diyaarisaa Birya wasiir ila noqdo taas wax fudud ma aha idaacaddii aka warramaysna meeshaan ma aha waxaa loo baahan yahay waxqabad iyo dulqaad teeda kale waxaan kuu sheegaa dadka waaweyn oo siyaasadda kaaga horeeyeen inaa xishmayo sidaa loo baahan yahay sida ani camal okay mudane hello igaraale ahada mudane anteenada ayaa igu xun asoo daahin waa laakiin ni soo laabanayaa سواي يا نولدي فاتنا بدي ناقتي دي شوية كده أو سرعة مرسيسي هذا وحنا قاعدين نسمع راديو مرجي سكاشري زد دبع مجاتس هذا ويسي كرولاتي عد له هذا يسمى له والله وذا أمسيا سبب لكن سبب محيك ودعدي مامي هذا سام كسي وديد ويش كدلك أيو تجايا وقتنا وأكاد معنا هذيك أنا ما سياسة دي سكسو بحث كاله aniga Biryaadi ah hore u taqaanay mihi ha isku dayn mar kale inaad teleefon ii soo dirtid waxaan ahay wasiiradda gobolkan ka gudumidaas waxaan ka rabaa arrimihii dheemanka wax ma ka soo ogaatay weli ma sawirba mays dheeman maxaa dar shakada inta u socotaa dheemanka maxaa dar yaa
يا إذا كم كل قاينة إيشاك برت المدينة ياه kala tegitaan buriya aniga ilaa yaraantaada ayaan ku aqaanay mana kugu ogan isbeddelka noocan ee waxaan kaa rabaa dhibka adigu ku haysta muxuu yahay ii sheeg adiga ma waxaa rabta inaad ogaatid waxa igu dhacay laakiin buriya adiga farxad beena qosol beena jiliin beena waxaasoo dhan waa samayn kartaa laakiin hal mid haddaan kuu sheego aniga lagama yaabo inaad cabsida kaa muuqata aad iga qarisid ee ii sheeg waxa jira sidee wax u jiraan ii sheeg runtana ka hadal maalmaha ka mida ayaa xaafadda waxaa imaaday kingi raajaa sheekar hooyaday ayaa waxay dhahday guriga waa inaad ka baxdaan anigana qolka aabahee ayaan aaday beryahan dambe dheemanka xaaladihiisa waa okay marxalado fiican ayuu ku jiraa haddeertan waxaan rabaa inaan baxo magaalada bangalore aado adigana dheemanka inaa igu soo wareejis ayaan kaaga baahanahay igu soo wareeji marka maxaa kugu dhaca adiga dhib ma laha haye oo warqadan qabsee sida dhaqanka caadada noo ahayd waa inaa warqadda sixidaa waraaq ibra aha waraaqdan maya dhib ma laha hadhowtii xaraariiqi doonaa marka iska saxiix adiga wax dhibaataa ma laha cabsan adiga dhib ma laha qof kale aniga kuma aaminayne dheemankan adaa nin weyn culusan kugu aaminay adiga waayo leh keen waa mahadsantaha hoo iga qaba adiga hoy juux waxaan ku weydiinaa baabuurka ma noo diyaarisi fikram maalmahan dadka waxay bilaabeen inay isdilaan adigana kuwaas maa ku darsoontay ii sheeg maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa warqadda asixida waxa ku qoran mataqaanaa qalinka askala duwanaya aniga dheemanka waxaan ku weydiiyey si sharaf ku jirto adigana waxaa iga dhigtay tuu qiyaanoolaa soo maahan waa dhimanaysaa aabahey wuxuu ahaa ninaan aniga aad u jeclaa dadka tuuladan ku nool iyo gobolkan dhanna way jeclaayeen aabahey ninkan tuugga ah ayaa gurigeenna imaaday wuxuu dilay aabahey wuxuuna ugu sheekeeyey aabahey inuu asaga gacantiisa isku dilay uu yahay nin tuugga oo qaa'in ah kadib booliiska ayaa ka aamin baxay aabahey halkaasna waxay kula wareegeen biladihii hore loo siiyey oo dhan ninkan tuugga ah 20 sano kadib ayuu gurigeenna ku soo laabtay kadibna muxuu sameeyey mataqaanaa walaalkii ayuu handiday wuuna u cagajugleeyey dhulkii uu ugu talagalay inuu isbitaalka istana asaga ayaa kala wareegay fijay ninkaas waa khiyaanoole beriya ciyaar cusub mooda ciyaarna aniga adiga ciyaar nooceeya beriya ciyaar keliya ciyaar macnaha waxaan ku tusi doonaa boqorka cid u timaada iska daya xitaa qof salaama inaadan indhahaaga saarin ciyaarta keliya dhinacaaga ka ciyaar adiga maxaa samey rabtaan ii sheeg adiga beriya haddaad arki jirta boqor isaga boqortooyadiisa dhisa oo dadka soo dhawaysta waxaan ku tusi doonaa boqorkan isaga ayaa gacantiisa ku dudumin doona boqortooyadiisa taasna aniga ayaan waxaan la ciyaari doonaa ciyaar aad u adag maalinta aan joognay meesha taleefanada waxaan kula kulmay saaxiibkayga qaaliga kadibna wuxuu ii sheegay in uu rabo boqorka arrin muhiima arrintana waxay arrin inaan ku sheego maqana boqorkaas raba in ismar labaad guursado arrinta sir waan ku dhahay adeerkayga ii sheeg ani lacagtaadana markaas waa ku siinaa ku dhahay asaa wuxuu qofta dili karo komishinkaaga waa ku siinaa lacagtaada anna markaas adaan lacagtaada deenta ku siinaa kawal walla aaw adiga markaa laakiin arrintan sidee u dhici kartaa ii sheeg gacaliso aniga ayaa garab kugu siinaya waxaan soo ogaaday dhammaan boqorka meelaha uu ka jilicsan yahay wuxuuna aad u jecel yahay oo uu aaminaa guurujo oo aan nin faalaloowa faalalowgaas ayuu ka dambeeyaa mar kastana hadalkiisa ayuu dhegaystaa ciyaarteenna bilowgeeda waxay noqon doontaa inaan sawirkaaga qaado kadibna aan ku qoran nasiib aan jirin oo been ah oo aan ka dhiga inaad hal magaalo ku wada dhalateen isku nasiibna aad tihiin waana meesha keliya oo aan ku qaban karo masterkiin oo aan kaga guulaysan karo qorshaheennana uu ku hirgeli karo
sawirkaaga markaan ku dul qoro nasiibka beenta ah kadib waxaan u dhiibi doonaa guuruujo guuruujona wuxuu u gudbinayaa sawirkaas kingina wuxuu ogaan doonaa inay tahay qoftan qoftii munaasibka ku ahayd oo uu guursan lahaa arrintaas marka ay dhacdo annaga waxaan gudaha ugu jirnaa boqortooyada waana guusheenni koowaad gacalisa qiimaha dheemanka uu ku fadhiyo waxaa annaga nooga qiimo badan qiimaha uu ku fadhiyo boqorka dheemankaas inaan soo celino waa ku qasbannahay sababtoo aabbaha sharaftiisa ayaa ku xidhan gacanta dowladda in dheemankaas aan dib ugu celinno mideeda kale waxaad ogaataa ninkaas waa inaad u qosashaa u dhoola caddaysaa wax kastuu ku dhahana waa inaad tidhahdaa haye intaan dantayna ka gaarayno intaad gudaha ku jirtid anigana bannaanka ayaan joogaa boqorka asaga asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa jankaaya iyo shakooni waana nin madax adag cid uu aaminana haba yaraatee ma jirto laakiin adiga haddaad guursatid oo aad gudaha boqortooyada geshid waad ku qasbantaa inaad ogaatid dheemanka meeshu yaal markaad soo ogaatay kadib anigaa si tartiiba u soo xadaya gacaliso berya haddaan kaaga sheekeeyay qisadii dhex martay romeo iyo juulad waxay ahaayeen laba isjecel ugu dambaynna jeceylkoodii markay iscalfan waayeen ayay dunida ka tageen wayna isdileen intan yaree dunida joogno aniga adiga si farxad leh inaan ku noolaanno diyaar ma u tahay geemkana mayla ciyaaraysaa gacaliso filin hollywood lagu samayn raba artin inaad kanaadaa ku samaysin maho sheekadaas midnii suurtagalaysa ma aha anigu aniga daaweyna talamanisiya sheekadiina inta ma ka soceysa hollywood ay ka soceyay inta maaha laakiin kanaadaa maaha director idhegeyso filim hore loo sameeyey haddii gadaal loogu celinayo dadka xataa dhiirigelin ayaa la siiyaa laakiin annaga filim cusub ayaanba kula imaanay waa diidan tahay odhodho mami xisaabta waxaa ku dartaa laadarka filimkana atirshada kama shakisana shaaha cusba haddaan ugu dara xataa xabiibtu waa macaan yahay si farxad leh ayuuna u cabaayaa ay fiiri anaa fikrad khatar haayaa hal hees khatar oo macjuugan haayaa heestaasaan ku dhufeynaa kabacdi meedhiyahaabna soo doonahay heesta miraheeda iyo laxankeeda kullin anaa iska lahan ku dhahay mami saaxiib xilliga baashaalka ayaa la taaganya abo marka waxaan la yaabanaya maalintaasoo dhan dhowdhowle ma ahaynaa warbixintan sii qaata waa dhaymankii iyo meeluhu yaallo wixii ka dambeeya anaa masaj idiin soo diraayo idinka marwa kaalide waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiino ikraale ahada ನಾನು ಮಾತ ಕೇಳುವಂತೆ ಕತ್ತು ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೂಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮಂದಹಾಸವಾಗಿದೆ ಹಚ್ಚೆಯಂತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನನು ಹುಚ್ಚನಾಗು ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿಗಲಾರೆಯೇನು ಮಾಯಾವಿ ಕನಸೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸೋತೆನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿಸು ಮಾಯಾವಿ ಕನಸೆ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪೀಡಿಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡು ಬಿರುಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನ ಪಿಸು ಮಾತಿಂದ ಅಭಿಸಾರಕ್ಕೆ ನೀಡು ಕರೆಯೋಲೆಯ ನೀನು ತುಸು ದೂರಿಂದ ಗಾಯ ಮಾಯಿಸು ಸ್ಪರ್ಶ ನಿನ್ನದು ಮೌನ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿತೀರದು ಬಳಿ ಬಂದಿರು ಮೋಡಗಳು ಮಳೆ ಮಂಟಪ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಸಾವಿರ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು ನಿನ್ನೆಡೆ ನೂಕುತ್ತಿವೆ ಮಾಯಾವಿ ಕನಸೆ ಒಲವೇ
ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾರು ಬೆಳಗಾಗಲಿ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಿ ದೀಪ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಮಾಯಾವಿ ಕನಸೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸೋತಿರು ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿಸು ಓ ಮಾಯಾವಿ ಕನಸೆ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪೀಡಿಸು fiiri wixiisi suu biyooyo aalmintii wax darnas ku jiraan waxaa malinaya tv-ga inas fiirsoyo warka adoo soo istaag tv-gan si fiican u fiirso dhadhanyo shaki kuma jira murashaxadda xisbiga Jaya Party ee Bariya inay ku guuleysan doonto doorashooyinka soo si socda fiican u fiiri qoftaan xisbiga hogaamiye leh ahayd haddana xisbigana iida la wareegatay qorihii anaga nagulgubilaa mininkaa noo keentay adi teeda kale faalalooga warkiisa le si u qaadi haysa waxaan ka cabsaa wasiirnimada iyo magacaaga batuulada iyo gobolka in laga waayo ad maxaa suubis mataqaanaa xilkii wasiirnimada inaa iska siibtay qof kale u gelisay saas ma u socotaa gruub bay wax walba hagaagayaan isdeji adiga shaahana qabso caafimaadka ayuu roon yahay guruujiye ayaa wax walba ii sheegay aniga lagamana yaabo mar dambe inuu boqorsameeyaha gobolkan ii sii noqdo ayuu kaa qabowin walaal mama ciyaar meel ciyaaraysaa allo ba'ay tartanka olombikada hindiga ka qaybgal kadibna koob qaado biladooyinna waa luusiya aad nin magac le aan noqonayaan ku dhahay beriyahan ololada doorashada way soo dhowaadeen waxaan kaa rabaa xaflad inaad dhigtay xafladdaasna waxaa ugu yeeraysaa dadka dunida magaca ku leh waxaa ka mid a dadka u yeeraysa agtarrada waxaan kaloo rabaa inaad u yeerto dadka isboortiga ciyaaro oo dhan waxaan rabaa xafladdaas xaflad qiimo weyn leh inay noqoto waxaan rabaa oo kale xaflad bele ka dhacda inay noqoto beriyaha waxay ii soo sheegtay information ah qof xisbiga ka tirsan inuu hayo dheemanka labadeenna waxaana laga rabaa inaan dheemankaas soo qaadno diyaar ayaa u tahay soomaan dheemanka inaad ila soo qaadi saaxiib horta dheemanka inaan soo hadna laga maarmaan maho ii sheeg baadaan ku weydiinaa walaa guruubay guruuji ayaa isoo waca aniga raajila shankar adiga waxba hawlwelin inkastoo guurka beriyaha uu dib u dhacay halkeeda aniga ayaa hayo doorashada ka hor waa inaad beriyaha u dhammaysaa beriyaha haddaad disho kadib beriyaha nasiibkeeda iyo nasiibkaagaba adiga xaggaaga ay soo marayaan kadibna adiga ayaa wasiir noqonayo umbay waa inaa u yeernaa nin beriyaha u dhammeeyo waxaan kaloo rabaa saxaafadda shakiga iga qabto dhanka kale in uu rogo waxaana ku tusi doonaa dadka gobolkan ku nool iyagoo idhahaya mudana xilkaaga ku soo noqo fiyoorana qoorta ii gelinayo waana igu ballan middaas midda kale dadka waxaan ku samayn doonaa indhasracaad waxaan u jeedi doonaa khudbad qalbigooda qeyro geliso khudbada markaan u jeediyana iyaga ayaa i dooro doono aniga gobolka ayaan u dhashay waxaana diyaar u ahay gobolkan dadka shacabkaaga ku nool inaan wax u qabto waana hubaa mar labaad ayaa lai dooranaa wasiirka arrimaha gudaha laga bilaabo saacaddan boqortooyada master king way u dhammaatay aniga ayaa burburinaya sida ugu dhaqsaha badan weliba ilsa saacaddan intaas markaan sameeya kadibna magaaladan eeyahayga oo kaliya ayaa ka ugaarsanaa maalmahan facebookga warbixinadaad ku daawacaysa waa arkay anigu waan ku khasbanaya maxaa yeelay dad badan ayaa jecel facebook inay wax saaraan laftarkaaga ma yaraysatid khatar baa taa adiga adigaba actor weyn ayaa tahay laakiin isma ogid good walaalkay badii waxba ka walwalinaa ku dhahay adiga aniga maskaxdeeda sida kubadda cagta camal ay u shaqaynaysaa mar weerarey ka dhilaysaa mar noo mar difaac marka aniga muhiimadeeda ugaan meesha dhaama ku yela anaan raadinaya mami waxaad ogaataa haddiina la qabto in sidii kubaddii oo kale nolol ku ciyaarayo marka waa inaad adiga iska taxadirtaa mami iska dhaafaday dadka waxay noo haasaan dadka filmaan samaynayay annagana waxaa ka dhaadhicin ree aqraadka inuu mobil haysto deeshaan ciyaal camal la elitaani iska dhaaf marka adi mami meel kasta waxaa taagan tuugadii miis kasta ayaga ayaa fadhiya adiga waxaa lagaa rabaa indhahaaga inay furnaadaan mar kastana aad iska taxadirto okay walaalkay aniga hadda waxaan diyaar u ahay operationka dheemanka taabanin aad tariisha waaye soco bay adna soco mudane xafladdu waa xaflad aad u ballaaran hay atrish saaxiibaa imaadiya waatana qoftan deefika la dhahaa deefika wax badan ayaa tiifiyada kaa daawada musalkaagana waa la socdaa aniga waxaana tahay atrishooyinka atrishada ugu khatarsan waxaan kaloo kaa rabaa xisbigeen inaa garab siisid waa runta waa ogaa masaakiinta inaa caawisid anigana sidoo kale inaa ku caawiya ayaa rabaa beriyahaye qofkan hore u sii kaxeey
cabitaankaaga wada xafladana furan tahay kaneecadan may admaha kaneecalay wareeras gudub adiga badhiyahay hawshaana meesha ugu fiicanay maruusaa tiimkaanan tiimka uu qatarsan waayo anaaba kabtan waay maho dadka si kastuu tiimkeenna khatar u yahay awood kastuu leeyahay adigoo kale haddaad kabtan u tahay xitaa ciyaal iskool inaan ka guulaysana lagama yaabo waxaa lagaa rabaa inay indhaha ka furnaadaan oo aad taxadirtid dheereey dhexyaray dhuubanay dhalasho wacan dheel igama ahane waa dhaba iga guddoon boqorka hadduu ogaado dhalashadeeda inay tahay xaflad ayuu ii dhigayaa aniga filinkayga waa filim blockbuster tiyaataradan wuxuu saarnaanayaa ilaa ugu yaraan muddo 1 sana ah uma baahniya idhaaf way iga tagto qoftaan maxaan hadiyad uga dhigaa fiyoori yaraana way igu diidaya saaxiib mama xaaladda way qasan tahay waxay la tahay in la fahmay si fiican u fiiro qoftaan dibika ah gudaha ayay gashay gacantana waxaa loogu soo xiray duun guduudan galaas limonna waa la soo siiyey kadibna way ka soo baxday waxay la tahay gudaha waxaa ku jira faalalowgii guruuji ah dadkana waxaan asaga ayaa u soo xiray waxay ila tahay inuu xafladda yimid kana soo qayb galay maxaa dhahay guruuji dadku ugu horreey oo soo galowb ahay bay xafladda haa asaa u soo duceeyo malaya kuwaan laakiin sidee ku geli meesha sabab laakiin ii sheeg bal okay waxba ha ka baqin aniga ayaa gudaha galaya dheemanka loogu magac daray dheemanka guushana asaga ayaa gacanta ku haya waa inaan aadaa saaxiib taatiga waa bedelayaa sheekada waxaan ka dhigayaa dhuudhuumasho si toosan qolka uu ku jira ayaan u aadayaa ka seexa hawshan waayahay waa samayn kartaa badhihi adiga sidaadaba doorashadan ha ka qayb gelin xitaa meesha lagu qabanayo ha isku tegin dhib iyo jab ayaa kala kulmaysaa intaas ayaan ku dhihi lahaa aniga okay waayahay maxaynu samaynaa tale noo soo jeedi soo iska bax wejigaa la iga qari mudan waxaan kaa codsanayaa inaad tigidhada xisbiga laga qayb galaya adiga durto adiga xisbigan faraha kala baxa stuudio saabana ku geena shaqan ka siina meesha ka shaqeyso baari telephone waa kuma qofka meesha taagan waa qofka nasiibkaaga burburin lahaa marbo dhalasho waxaan ayaan ku leeyahay aniga taageero ayaan ku mogtahay hal sir ila galno adiga ismicnaanin warkaalay see camal qofka nasiibkeeda markaa fiirin maanta dhalashadeeda maba ku beegneen sidee wax u jiraan ii sheeg dhib male taas guruujiyaan weydiinaynaa soo baxan ii soo raac doqon ayaa taa adiga idintara raajayooga maxuu isku malaya asiga boqor ayaa samaynaya uu leeyahay waa inaan dila asiga kow ayaan ka siinayaa adse warran moosaane cid kale ma naqan karta boqor sameeya aniga oo keliya ayaa labadoodane sida ugu dhaqsiyaa badanna waa inaan u dhammeeyaa adiga ha degdegin nasiibkaaga inuu dhimayo ayaa laga yaabaa maxay taa nasiibkaa kaadlaysa ninkaas aniga korteeda hoosteeda ayuu ku jiraa magaaladan aniga oo keliya ayaa boqorkee cid kale boqorka ma naqan karta adigana war ninka xaguu aadeen ani maxaan ka ogaa sugu waa fiirinaa labadeenna haddii aan israacno waan la fahmayaa marka elboorka adiga dhinacaaga ka imow baay aniga waxaan kaliya u noolaa gabdhaha gobolkan ku nool inaan badbaadiyo halkaan waxaa mid aniga wasiiray adiga naftaada inaan badbaadiyo soo dhaqaaji halow badmaash bulucda hadalkaaga ii sheeg bulucda hadalka aan ku siiyey adiga gacalisadaada geem ayaa la dhesheen geemkaasne luulkayga ayaa ku qaadatay anigana gacalisadaada ayaa gacanteeda ku hayaa bastooladeydana madaxeeda ayay saaran tahay king aniga ayaa dheemanka gacanta ku haya laakiin gacalisadeeda waxba ma gaarsiin karta haba yaraatee anug yar ayaa tahay cashir aan weligaa laguu qorin inaan kuu qoraan rabaa 10 daqiiqo gudahood guriga igu maw aniga aqoon iima lihid king waxaad ogaataa haddii gacalisadeeda ii yarto xitaa ilbiriqsi inaanay ka soo daahin sida ugu dhaqsaa badan dushaada ayaan saaranahay महाभुजा सत्य विक्रम राजेंद्र परात परा रामा राम 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 जय श्री रामा राम 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 विजयी रामा राम 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 जय श्री रामा राम 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 विजयी रामा
संहारा धनुधरा परशुर त्रिविक्रम जनार्दन रामा शत्रु विनाशक महाभुजा सत्य विक्रम राजेंद्र परात्परा रामा चैत्रजिता मित्र महोदरा वीर त्रिमूर्ति वेदात्म राघव जगद्गुरुवे वर प्रणाम महादेव सर्वदेवाधिदेवा वीरा देवा रविवरा सीता प्रियकर सहदादी सुरक्षत्मनया सुरवीला रघुवरा रावण हर वीरा मधुकरा वीरा hoy dadang dadkan waxba ha garaacin batuuladada korkaanay saaran tahay ka jooji dhamsaas dheemanka igu soo wareeji dhaxyareedaada anaa kugu soo wareejinaa dhankeygii joogta aan ku dhahay dhexirtaan jeclaa iska daa dheeman inaan ku siiyo waxaan diyaar u ahay inaan dhaqdhaqaaqa wadnahayga xitaa aan ku siiyo dheel iga maahane waa iga walaal guruubay aniga dadka markaan dilay warqad ayaan ka saxiixi jiray laakiin maanta waxaan rabaa inaan dilkaas folof ka dhigo oo weliba maanta qaab cusub ninkan aan u dilo king dheemankaaga waa haysataa beriyaa faraha ka qaad fijay aniga waxba iga walwalin adiga nafsadaada badbaadso iska bax walaa guruubay dadkan jaliil cusub ay nagu bilaabeen halkaa waxay rabaan sheena inay ka sameeyaan بريا gaclis inaa ku badbaadin waayo aad ayaan uga xumaa aniga badmaash saaxiibadaada way u dhammaatay tareenka aakhira ayay raacday adigana qarka ayaa ka saarantaa haddeertan ayaan kuu dhammaynaa hey rudraabe kaxay ninkan qolkii igu geysay dhaqsiyaa badan leh guruubay dhammaan saxaafadoo dhammaa wacaysaa waxaan u sheegaysaa gabadha wasiiradda cusub loo dooran rabay in la dilay saaxiibkeedaa dilay middaas u sheeg laga bilaabo saacan aniga ayaa ahay boqorka gobolkan ahna wasiirka arrimaha gudaha halkan waxaa ka dhacay dil la yaab leh fiidiyogaas waxaan isku soo diraynaa moobeeladiina waxaa dil loo geystay murashaxaddii xisbiga jaya party ee bises briasima wax dilan lama yaqaan beledkan wax xunaa ka dhacay aan ku dhahay waxaan isku dayoonaa gruubba inaan la xiriirno laakiin qadka ma noo baxo si kasta ay haataba akhbaarta waa idin siinaynaa idinka joog waxaan haatan ku sugannahay guriga hore ee xisbiga jaya shakti party waxaa gudaha ku jira master king say wax u dhacayaan ayaan si toos idinku soo gudbinaynaa
waryaadii sii daaya aniga cid xiri karta male warqada igu xirtiin oo sharci ma wadatiin waa xirina kaliya meesha la taagantiin unuka inta waxaan u imaani adi inaan ku xirno warqadii aan kugu xir lehna waxaa soo gooya wasiirka cadaaladda adi waxaa kuu roon si tartiiba ana inaa ii raacdi haddii diididna ay camalaan kuu jiidaa sharaftaadana waa kaa bastooleha dani waxay kugu jirtaa hadda ana inaa isoo raacdid kaale aniga ay idhaysa soomaan isii daaya waryaa warqada igu xirtaan oo sharci ma wadatiin waa xirina kaliya yaa leediin war isii daaya xaggee ii wadaan war aawe walaalkay guruubaay aawe walaalkii guruubaay war guruubaay waxa war dadka inay dilaan rabaan war ma iga celisaan gabadha dadoo maxaa u dishi sii daa waryaa tuukiyo naga aamus war isii daa ka ana inta kusoo jaaye war fadhiiso inta maxay kala tuuraysaa na sii daa waryaa isdejiya aniga warkayga dhegaysta wasiirkan waxaan ku xirnay dilkii uu geystay musharaxaddii mister briya shir jarayd ayaan qabanaynaa wixii ka soo baxo waa idin soo sheegaynaa magaaladani xaalkeedu waa qasan yahay raajaa kiina wax dilaa laleeyahay musharaxadda briyayaas dilaa laleeyahay kolle wixii dhacana si toosaad u daawani haysaanee nala socda barnaamijyada kale ugu dambayntii kiin waa la xiray askarta hadda le wax fiican qabteen kaas alxero kadibna aldaldalo meydkiisna badda al uu tuuro ani ma dhihin laakiin shicibka warkaas dhaheen baaritaan dheeraad oo ay samaysay wakaaladda wararka ee loo yaqaana a f b ayaa soo saartay dilka briyaa sinha muuqaal la yaab leh muuqaalkaasna waxaynu la wadaagi doonnaa shacabka iyaga si fiican u daawada qaabka loo dilay murashaxaddii briyaa gabadha muskiinta maxaa loo dilay hami waa laheed dilkii briyaa kadib waxaa loo magacaabay taliyaha booliiska suuriya shavestava inuu noqdo maadaama uu yahay nin xilkiisa gudanaya ugu horraynna wuxuu qaaday weerarkaasna waxa uu ku qaaday ninka la yidhaahdo guurujo waa faalolowga ugu weyn ee halligaya dadka ugu dambaynna waxaa la soo qabtay riyaas oo ha ilaaliyaha khaaska ee master king waxaa suubiya si edable teleefoonkan adaan lagu rabaa hool la hadal ken yaa taha adiga qofka kula hadlaya waa wiilka sodoga uu yahay vikram bartaab simha ee badmaash asaga ayaa xariggaaga mas-uulka ahaa jeelkana ku dhigay war maxaa naga dhexeeyo maxaase waxay igu samaynaysaa ii sheeg maya isdeji king waxaad samaysay oo keliya ayaa lagaa caarsaday middeeda kale saaxiibaddeeda aabbaheed inta dishay ayaad waxaad ku tilmaantay inuu isaga gacantiisa isku dilay uu ahaa nin tuuga oo khaa'ina qolka oobiga lagu qoro oo saldhigga dhexdiisa inaad ku dhimataa ballaneh anigaa shan askariyo waxba taran igu soo daraysaa soomaan waad dhimanaysaa middaasna waa igu ballan agtaada ayay ka yihiin askar raqiisa laakiin waxaad ogaataa laga bilaabo maalinta beriya waxaa loo aqoonsan doonaa inay yihiin geesiyaal qaran oo dalkooda difaacay waxaan kaloo kuu raacinayaa ninka dhinacaga fadhiya ee rudraaba si fiican wejigiisa u fiiri master rudraaba waxaan kaa rabaa inaad ii sheegto markii aad duqoodo lacagta retirementiga ee dadka waayeelada loogu talagalay sidee ku qaadan doontaa maadaama ilaa yaraantaada aad musuq u soo dhex jirtin adiga igaalkii ma ku fahmin micnahayga waxaan ka wadaa nin daacadha ayaa adiga hortaada lagu dilay kadibna waxaa la yidhi isaga ayaa gacantiisa isku dilay weliba waxaa laga dhigay nin tuuga oo dalkiisa iyo dadkiisaba khiyaan xitaa waxun maxaad u samayn weyda ii sheeg wixii aa hore u qaladoo dhan gebi ahaanba dib ayaad ka sixi kartaa sababtoo ah hal maalin oo aa wanaag samaysa ayaa qaladkaaga oo dhan aad ku sixi kartaa runtaa waa laakiin hadda maxaa suubiya ii sheegbo aniga adiga geem ayaan wada ciyaaraynaa diyaar muu tahay dhinacaaga inaad ka ciyaarto odagaan xumoo doqonka oo nacaska hadda garabku siiyey inaa iga gulaysta ma malaysaa waa arkaysaa mar dhow siyaasaddeeda cusub inaan la soo baxo maya ha degdegin tartiib su'aalahu weliba ay ku dhimayin mid kale ayaan rabaa waxaa sheegtaa xiddigii soomaaliyada lixii siddeetanka olombikada ku qaaday biladda dahabka ii sheeg cabdi bila cabdiwaa maxay ii weydiinaysaa su'aalahaaga way fara bateen aniga su'aal ma doonayo exactly waad saxan tahay dhabta ayaad ka hadashay annaga haddaba xiddigga noo qaaday inaan ciyaartan kaaga guulaysanno cid kale maaha waa adiga walaalkaa guuru baay walaal guuru haye iga warran walaalkaa suuriya magaalada london inuu joogo ayaa la ii sheegay laakiin see ku ogaatay ii sheegbo arrintaasa ku weydiinaa suuriya waa nool yahay londonas fiyoora ku gado iiloosaan ku dhahay ana soo arki waxaa la yaab noqotay geesiga weynaa ee suuriya baay ee magaaladan kriketkeeda lacagaha ugu badan ka heli jiray inuu maanta magaalada london waddooyinkeeda uu fiyaaryaal ku iibiyo middeeda kale waxaad ogaataa adigu hadduu arrintan kiin ogaado inuusan nolol kugu dhaafayn ee uu kuu dhammaynayo middeeda kale guuru baay adiga ninkaas ixtiraamayaa siisaa talooyin wanaagsan laakiin asaga wuxuu ku haystaa inaad caawiye keliya agtiisa ka tahay oo qiimo weyn aadan ugu fadhiin marka maxaa suubinaa hadda laakiin ani hadda maxaan kuu qaban karaa ii sheegbo ciyaar ayaan wada ciyaaraynaa geem ayaan ka wada macnay guruubay bambay waa inaan ka dalbnaa nin beryaa dilo xilliga munaasabkahay oo beryaa la dili lahay ayaa la joogaa raajaa beri waxaas diyaariyo saaxiibtaa beryaas isku dili lahay arrintaas ogow adi oo kuu sheegay ani ka baqin tartiib isdeji adiga wax daawo geliya yaa
yaa dhawqa xabadda aad maqlaysay markay dhagaaga ku soo dhacaan si dhaboo kale ayaad u malaynaysaa inay run tahay laakiin xabadaha gudaha ku jira waa dheemish qabo baasha la wareeg berri markii uu xabadda ku dhufta kadib ninkaasi moobilkaaga ayaad ku duubaysaa anigana waxaan samaynayaa berya ayaan dalka isaga dariyaa si aana muuqeeda loo arkin arrinta beryaa inay dalka ka tagtayna adiga ha ka baqin mastahraari ayaa saxaafadda beejka ugu horreeya beris wax ku soo bandhigi doona inay qoftaasi geeriyootay adiga tallaabada xigtaad qaadaysa waxay tahay dhammaan xisbiga ayaad u wada yeeraysaa waxaadna iclaaminaysaa inuu dilkan ka dambeeyey ninka la yidhahda mastarkin oo uu dila beryaa walaal guuru waxaad ogaataa goobta uu dilka ka dhacay anigana waan ku qasbanahay inaan imaada si aan beryaa u badbaadiyo dako ad waa dadaashi laakiin waxaad ogeen kiin wuxiis yahay gabadha saxabadku dhufta xitaa xididka halboolaheeda astaabahaan hore ma u maqashay keligood cuntoy keligaa celceli dhegayso hawshaas aniga igu dhaaf anaa xalkeeda haya dadka halboolahooda isku mid maaha dadka qaar halboolahooda marka taabato waxaa u malaysaa inay dhinteen beryaane dadkaas ayay ku jirtaa ciyaartii meesha ugu khatarsaneed hadda ayaabad keentaba inta dhimanna aniga ayay miiska ii saaran tahay dhammaystirkadan anaa layga rabaa muddo badan wixii aad ka soo shaqaynaysay hal bacaad kulis ayaan ka dhigay mideeda kale waxaad ogaataa dheeminkii waxaan u dhiibay guruupai iyo rudraba dowladda ayay ku wareejiyeen dheeminkii wixii ay qalad ka galeen dowladdana sidaas ayaa lagu cafiyey tiimkayga dadka aa ka wadatay xaggayga seere a kama ahayn seere b ayay ka ahayeen xaggaygana waxba ka tari maayaan mideeda kale adiga waxba ha farxin sababtoo ah aniga weli xabsiga maana tegin xabsiga haddaan tagane waxaa iga horreeya looyaro fara badanoo aniga ii doodaayo waana arki doontaa jeelka dhexdiisa waxaan ka samayn doono adigane markii aan kuu soo baxo waxaan kugu samayn doono markaas ayaa arki doontaa king ciyaarta 1 iyo 2 ma joogta adiga degdeg ayaa kaa muuqda tartiib isdeji warbixinno kale ayaa kuu dhiman ورسيدايا واكنا كلب كحما حبسك كينه وايغو بلن اديغا بحسن حبسك لا يا كسو بخ واخ ku galay arkaysa وايغو بلن كلب iyo xunka saxawa ninka dhigta maxaa uu sheegtay waa boodboodi be kingi bama nasiibka ayaa nasiyay inaan magaaladan gacanta ku dhigno sababtoo ah duufley xumaba wuxuu isku dayay inuu wasiiru dawlad ka noqdo shacabkana maamulayay cidda naga hortaagan inaan shacabkan qulubtooda kasbadno oo aan matalan labadayada kingi mama iyo rama raja awoodoodina aan dib u soo celino परशुरात्रि विक्रम जनार्दन रामा रामा शत्रु विनाशक महाभुजा सत्य विक्रम राजेंद्र भारत परा रामा रामा
समझता मित्र महोदरा वीरा त्रिमूर्ति वेदात्मा राघव जगद्गुरु वेवर प्रदा महादेवा सर्वा देवादिदेव